marka aad baad u mahadsantihiin gudoomiyaha waan ku soo dhaweynayna Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye wixii noo yimid waqti xasaasiya waqti adag waqti kulul waqti siyaasaddu bayna tahay runtaynu ka sheegaynaa kama warwareegayno gudoomiyaashii hore Jaanis baynu siinay waxaanu siinay inuu si laab furan oo cadaalad oo sax ah ula hadashaan isagana intii leegun baynu siinaynaa wax ka duwanna ma siinayno wax dheerna ma siinayno tixgelintii iyo isqadarintii iyo nidaamkii aad su'aalaha weydiinayseena ka weydiiyay fadlan ha ku celinin hadduu qof ku weydiiyo waxa laabtaada ku jira ha ku celinin hadduu qof ku weydiiyo waxa dareemaysay oo hab kale u dhigan xataa fadlan ha ku celinin qof kale oo su'aalka ka duwan ayaa ka faa'iideysto qofkii aan su'aal muhiim haynin ee su'aashiisu caam iska tahayo fadlan waxaad samaysaa ku ixtiraam qofka kale aad dareemayso inuu wax weyn weydiinayo aad baad u mahadsantihiin waxaan inoo akhriyay oo aan inoogu bilaabayaa marka ugu horeysa CV-ga gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo aan jecelahay aad buu dheeriyay waa 4 page haddii aad cod koobana waan idinka soo koobi waan idin dadajin karayaa laakiin waan idin akhri karayaa dhamaantiiba ilaa 1960kii waxa uu barashadii dugsiga hoose dhexe uu ka dhameeyay biyo dhacayga sare iyo biyo dhacayga hoose labadaasi ayuu isku dhamaystay 1970kii 1973kii waxa uu waxbarashadiisa sare uu ku soo qaatay dugsigii sare ee Camuud Secondary ee magaalada Boorame 1970kii 1973kii waxa uu shahaadadiisa digriga uu ku bartay oo ah cilmigii ciidamada cirka iyo bayloodnimada military air force pilot training oo ku qaaday akaademiyadii ciidamada ee Dishambul ee ku taalay dalka Kyrgyzstan ee dawladii la oran jiray midowgii Soviet ee USSR 1973kii 1974kii waxa uu ahaa sarkaalkii hawlgelinta ee xafiiskii raxanta diyaaradaha duqeynta Soomaaliya ee ku taalay Afisoni ee magaalada Muqdisho 1974kii waxa uu ahaa sarkaalkii hawlgelinta xafiiska raxanta diyaaradaha duqeynta Soomaaliya ee Baydhabo oo markii dambe xafiiskaas markii hore Muqdisho ku yaalay markii dambena Baydhabo u guuray 1975kii waxa uu ahaa ku-xigeenkii sarkaalka hawlgelinta ee xarintii guud ee ciidamada diyaaradaha dagaalka Soomaaliya ee saldhigga looga dhigay Balidoogle 1978kii waxa uu noqday ku-xigeenkii xafiiska cilmi baarista gaashaandhigga ee Soomaaliya u qaabilsanayd Yurub iyo Mareykanka 1981kiina waxa uu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo afartii sarkaal ee ugu horeeyay ee Soomaali ee shir ku gala wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka ee Bentontown waxaana saraakiishaasi weerinayay ku jiray 1981kii waxa uu kooras gaaban oo ku saabsan sida qalabka loo kala iibsaday iyo shuruucda la isku dhaafsado uu ku soo qaatay kuliyadii ciidanku uu ku leeyahay magaalada Ohio ee dalka Mareykanka 1983kii waxa lagu xidhay magaalada Xamar isagoo loo aaneynayay inuu ku lug lahaa qulqulatooyinkii ka dhacay Hargeysa isagoo xabsigana ku jiray muddo 6 bilood ah 1984kii waxa uu shahaadadii military science uu ku diyaariyay kuliyadii Fort Lee ee Florida ee dalka Mareykanka 1985kiina waxa uu ku biiray ururkii SNM 1985kii waxa loo magacaabay taliyihii aaga galbeed ee ciidanka SNM 1988kiina waxa uu noqday madaxii sahanka SNM oo taliye u ahaa xigeenkiisa 1987kii waxa uu xubin ka noqday golihii dhexe ee SNM 1988kii oo ka qayb qaatay dagaalkii ugu cuslaa ee SNM iyo ciidamadii Siyaad Barre oo muddo 6 bilood ah ka socday kala beer iyo deegaanka u dhaxeeya Wajaale December 1988kii waxa uu hormood u ahaa fikradii iyo buldhigii aasaasihii golaha guurtida Soomaaliland leedahay 1989kii waxa uu ahaa howlwadeenadii shirkii SNM ee Madaweyn 1989kii gudoomiyihii shirweynihii SNM ee Balligubadle ee lagu doortay marxuum Cabdiraxmaan Tuur madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland 1989kii ilaa 1991kii madaxii nabadgelyada taliskii ciidanka iyo xeryaha qaxoontiga ee Daroor Kama Bokor Baliyeley iyo Dulcad 1991kii 1992kii 1993kii madaxii hogaaminayay shirkii dib u heshiisiinta iyo dhawaaqista Soomaaliland ee Berbera Burco iyo kii siyaasiyiinta 1993kii waxa uu ka mid ahaa ka qaybgalayaashii shirkii Boorame May 1993kii August ilaa 1995kii waxa uu ahaa wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxyaabihii ugu waaweynaa ee uu kaalinta weyn ka qaatay muddadaasi
oo ku xusan CV-ga gudoomiyaha waxaa ka mid ahaa aasaaskii labada gole ee baarlamaanka iyo golaha guurtida iyo wakiilada markii dib loogu dooranayay gudaha Somaliland ee dib loo unkayay waxa uu noqday wasiirkii daaqiliga ee ugu horeeyay ee taga magaalada Laascaanood 1995 halkaasina waxa uu ka soo galbiyay ergadii gobolka Sool uga qayb galaysay golaha guurtida oo markaasi uu khilaaf ka taagnaa waxa uu suurto gashay hubka dhigistii maleeshiyaadka qaramayntii ciidamada ayuu qayb ka ahaa iyo ilihii dhaqaalaha aasaaskii iyo dhismihii ciidanka bilayska Somaliland militariga iyo asluubta dib u howlgelintii xisbiyada iyo saldhigyada booliiska ee dalka 1996 waxa uu ka qayb qaatay dib u habeyntii SNM 1996 ilaa 2000 waxa uu ku jiray nolol beeraley ah oo geel dhaqasho ah oo uu deegaankiisa dib ugu noqday muddada 4 sano 2001 waxa uu ka mid noqday aasaasayaashii ururkii Sahan 2003 waxa uu ku biiray xisbiga kulmiye oo waqtiga uu ahaa aasaaskiisu socday 2008 waxa uu gudoomiye ku-xigeenkii koowaad loogu doortay shirweynihii xisbiga kulmiye shirkii golaha xisbiga kulmiye ee ka dhacay ambassador waqtigaasi oo noqday gudoomiye ku-xigeen 2010 waxa uu noqday gudoomiyihii xisbiga kulmiye kadib markii uu xisbigu ku guuleystay talada dalka gudoomiyuhu ilaa imika waxa uu yahay gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye xaaladda imika fahankiisa siyaasadiisa ujeedada uu ka leeyahay siyaasadda hanka uu leeyahay waxyaabahaasi oo dhan ayuu inoo jeedin doonaa in kooban bayna la hadli doonaa gudoomiyuhu kadib way inoo bilaabmi doonaa barnaamijkeena idinku aad iyo aad u mahadsan malaha dhalinyaradiina halkan fadhida iyo sacabka badan iyo sida loo soo eegayo saatooga ma lagu dhageysan anna waxaan isleeyahay alla yaa caawa xaggaa ku soo fariisiyo dib ku celiyo 30 sano ama 40 sano labada naaweladood aynu naawilayno tiinu way hirgelaysaa oo waa suurtagal inay tiinu hirgasho laakiin taydu hirgelmayso cidna dib i cilmayso oo halka dib soo fariisan maayo oo cid inta kadib fikradu ku dhaqmaa waa maxay hadii la weydiiyo in yar baan ka oranay hadii la igu raahdo nooca dawladda ee doonayna waa caynkeena wana isweydiinaan dhamiska taagaya haday igu tiraadaan qoladiina kulmiye 5 sano waa dhaliilaynaa waxa soo ceebaaleediina intii barna waa iska qaaday barna waa iska daafacaya tan asaaseen wadi doonaa xisbiga kulmiye waa xisbi dimuqraadi ah aaminsan inuu dalku ku dhaqmo constitution iyo dimuqraadiyadda iyo suuqa xorta ah saddexdaas oo aad u adag si la isku waafajiyo marka hore waa constitutionalism xisbigaas dawlad qaran xisbi waa kelmado isku noqnoqda af Ingiriisiga government governance constitutionalism party power waxay u baahan tahay in horta kelmadaha isla helaba ilaa ninba dhib ka taagan yahay nina dhinac qaldan buu ka taagan yahay nina sax kulmiye fikradu qaba waxa weey inuu aaminsan yahay waxa dawlad oo dhan loo wada ee dawladda doortay saddex qodob marka hore inaad security hesho nabadgelyo qofka muwaadinka waa inuu nabadgelyo gurigiisa ku seexdaa ku soo toosaa shaqadiisa ku tagaa ra'yigiisa ku cabiraa hantidiisa ku dhaqaa caruurtiisa ku nabad gashaa dukaankiisa yar gaarigiisa ku nabad galaa waa sheekay aad u qurux badan hadday inta dawladdu ku qabato oo waxaan u dhisanay state-ka uu yahay haddana waxa garab taala dawladda iyaga qabanaya bina aadmigu wuxuu u sameeyay yahay psychology-giisuba hadduu awood helo inuu dantiisa u isticmaalo haddaad inaga imtixaan xukuno aad sii daysaan iska bina aadmi la saan jeclaysto mar intii jiida dantiina eegi maayo haddii aan la helin waxay qabtaa marka sharcigu constitution wuxuu samaynayaa check of power of government waa in dawladdii uu xakameeyaa executive waxa uu leeyahay democracy maxaa laga rabaa democracy waa maxay gabageeduba waa inay dadku u sinaadaan awoodda siyaasadda iyo awoodda dawladda oo si loogu sinaanayaa cod isku mid aanu leeyahay ciddaynu codkaas siino aynu dhaarna xukun ayaynu xukumaysaa dabcan dawladdu waa maxay innaga dawlad ka dhignay waynu dooranay cod baynu u ridnay madaxweynaha taabaynu ni halka ka wad baanu oo maxaynu sirnankii na xukun oo noo tari markuu xal arkay ba xukunta war waxa la arkay ma jiro haddii marketka siisa loo sii daayo
dadku way kala intelligent badan yihiin way kala hawl badan way kala karti badan yihiin qaar waa creative mid wuu gabiyaa mid sidoo wuxuu qoraad ka yaabaysaa mid wuxuu shaqeynayaa 8 saacadood mid awood ama leh mid ilaahay baba ka akridayba oo de intelligence kaaga iskalaas ma haydo midna xisaabta shan daqiiqo xisaabta ka shaqeeyo uu soo boodayay physics midna waxa laga yaabaa maanta oo loo soo arday ku dhigay waa awood ilaahay iyo caajnimadiisa oo marka hadii laga suuqu waa xor oo waa la yaacaya Soomaalinkii xoog weyn oo dheer kii kala baxti ku yar raaxa looga tagaya wax suuqu xor buu ahaanaya laakiin dawladda shaqadeedu waxa ay dadka inay suuceyso oo aan la kala tagin dii ila ilaahay dadka awoodi kala siiyay ilaahay dadka muusimin xorriyada wuu siiyay haddana quraankiisu ku sheegay maxaynu kala dawladdu u sameeyay inaynu sahlan soo isdhexgal bulsho oo aamina oo Soomaalida ku adag seedaba oo inaga inagu adag isdhexgalka socialka waxa weeye inaan halka ka tago ceer gaabo tago baran tago guri ka iibsado mashruuc ka sameeyo ka guursado aanan deedeyn xaafadayda Hargeysa iyo jigjiga yareeyo iyo calaamadaha yaradii way badatay iskuuladii bay galeen waa loo baqan maayo ninkii dad halun beelahay xoolasiye dalka rasha juulay way dad buulay dadku maana wax dhisa marka dhalinyarada ay taasoo buulay waxaanu eegaynaa dhibaatooyinka ijtimaaciga haysta waxa ugu daran caafimaadka tacliinta waa taqaaniin badan baa lagu celiyay waa in la wanaajiyaa biyaha maanta dalkeenu wuxuu ku yaalaa dhul lama degaana biyihina way yaraadeen inta cimrigayga aniga jireen garanayo ugu yaraan kala barbay biyo yaraadeen ama roogidii jiray tusaale baartiina dhibaatada haysata dhirteenu way dabargo'aysaa maxay dabargo'aysaa dadku waxay dhahaan waa dhuxulaysatada waa la shidayaa dhibaato ka daran baa jirta taa dhirta ugu haysaa bal hadda u fiirsada geed kasta oo quraca ama geed kasta oo galooli bisha April iyo May labada wiiga u dambeeyay April iyo May wiiga u horeeya oo dirir sagaaloodka ah iyo dirirka candaqoysta ah waxay bixiyaan mankay soo tuuraan dhirtaas mankaasi waa series markuu dhaco waa inuu daruur helaa geedka soo baxaya dhirteenu way dhamaanaysaa waayo roobkii baa waqtigii u dii jiray la waayay marka geedkii seedkii buu ridaya seedkii ba baxayo dhirtu way yaraanaysaa waxa kamid ah xoolaha cawlku markay labada bilood joogtaa buu sanka taagaa cirka horeyga waa marka uu taranka badinayo orgiguna waa la mid awrkuna waa la mid geela waxa la geelu raacay iska yar faanaba anigu inta kasta lagu caaye geeli waxay ku dhahdaan geeluna awrku markay gaadho bisha May awrkada daaqo u joojiya heestii ku jirtay oo xasan galay ku amaanay muxuu lahaa waxay sayla qalmaha saniyay daaqo u joojinaya sanku mutaagaya markay xoolihii iyo dhirtii u diyaar garoobeen waqtigii taranka roobkina uu seejiyo uu ama August ama September karantii uu ku beego daaqina uu gaay xoolihii waqtigoodu isbedelay dhibaata ay haysata natural oo hawada isbedelaysa oo mutacallimiintina fara badan ka fikirtaan loo baahan yahay hadii warbo haysaan inta taasan ku dhaafaya waxaan u gelayaa dhaqaalaha in badan laga qayliyaa kulmiye soo wax u arkaa horta barnaamijkii aan ugnaa green kana waa sida caawa bulshaduna way isku khilaafsan tahay berigii waa noo ballan qaadeen oo xamidaan furin bay badan ay oran doontaa anna waxa la warin badan waan fulinay biraad baan meel waxba naga dhiman laba sano caawa ka dood doona marka dhaqaalaha ku raagi maayo hal wax baa dhaqaalaha uga boodaya inta kale waa taqaaniin oo qolada jaamacadaha businesska waxa u baahan accountant cilmigiina taaban maayo food security maanta adduunka hub la isku dili maayo waxa la isku dilayaa cuntada nasiib darro inaan ku gurmaan u baahnaa jaamiciin iyo ku suuq joogaba siirkii baash arabakhideeni siirkii garawgeena siirkii tamaadadheena siirkeenu uu doorgo'ay waa la qaadaya deetana waxa la dhayaa ka soo iibso mid Kenya la keenay aqliyada aynu siirkeena ku hantinayno stores ugu sameeyno u baahanahay oo berita hadee wax dhacaan aynu siirkeena beeran karno oo aan cidi gacanteena ugu siiris waa dhibaatada ugu weyn ugu soo socota 10 sano soo socda taasoo ku dhantaana kaga tagay infrastructure iyaba waa aqli hadaan dadka wax isku dardaro doona dhisano iyaba waa aqli laanagu lacag baana seeniye garoomada dekedaha ku dheeraan maayo dhibaatada kale ay haystaa waxa weeye energy leer la'aan adduunyadu ma socoto way nagu filantay magaalada Hargeysa dabeesheedu in leer tirga noo dhayso markaad masalaha dhigto waxa doonto diyaarad baan ku duuli jirnaa diyaaradda baalkeedu yahay 60 mitir ee tir rushamar waxa dareeyay jira dheereed oo diyaaradaha ugu culus 18 kilometers per hour buu garoonka Hargeysa dhacaa deetana baal
buuraha dhuxusha ku jirta ee dusha saarta ee hataa in la qodo baahnay leer kasta xad inuu heli karno waa Ethiopia gees Afrika ma siinaysa wajaalu taagay soo qaadashada Soomaaliya dhiman deforestation waan ku qaaday kaynta go'aysa waxay u dabar go'aysa laba waa dhuxusha la shaqayo iyo siidkii oo baxaynin ciidi markuu roobka yaraaday dabaysha waa kacaysa dhibaatana way nagu dhacdo ma doonanin inaga nabadii majarafad qaado oo moos yar xidho wixii jaamacad galay computer telefoonada ka xarragoonay majarafada oo ma qaadi kartaan qodobka ugu dambeeya waa foreign policy arrimaha dibadda اعترافكي أفراد تصنع كل مية مركز عن معارض كهين بان أريد وهين إما كان واحد مرة يدا إن بدن بانو قبلنا بان واحد بدن قبلنا هذا عندها يجا وحوار كسان هذا كل كل قشتين وين مرمي دونا سلام اعتراف ويا الله ما تعالى سؤال وين الحول يرعاه ما حزب يوحى اعتراف واحد دونا واحد نجاقو أن كل قد جين inay Soomaaliland noqoto qaran jira oo qaramada caalamka kamid oo jibcida qorobka dhaxsataya laakiin waxay doonaynaa inay su'aal aynu ka wada tashano jaamacado iyo ku suuq joogaba oo wadaagno sidee baynu uga dhignaa habkeebaynu u maray approachkee dawladaha caalamka mid walba oo u martaa si ay qaran noqoto mid xoog bay ku noqotaa dagaal oo ciidankeeda xidid xidhataado wax ku guuleystay xad xidhan oo ilaa imka ku nool North Korea jirta dadkeedu gaajo ha u dhinto hadhiteen laakiin ilaa nuclear bay ku samaysatay iyadoo cidina u soo galin waa wada la maro waxa mari jiray dawladda hore fashiska ay Romankiyo wadada labaad waxa jirta dawladda anagu diin baan nahdo waxaan diinta ay soo galimayno oo gabigoodu diinin wax ku ilaaliya yahuuda kamida waa halka cumar saato jiish ma tahay haddaan jiish hay galimays deetana way ku ilaashadaan waxa jira dawladaha qaar ahab kale oo lagu ilaaliyo oo maskax adoon lahayn macdan adoon lahayn beero bad lahayn adoon waxba haynin ayun baad maskaxda ku geynaysaa adduunka ba sankaasad qabanaysa Singapore ba kamida oo naga taagta waxa la haysaa ma jirto adduunkana sankaas haysa Japan ba kamida wax alla wax resource samare aqli iyo aqoon bay keeneen nin waliba hadaad aqoontaada iyo tarantkaaga halka dhigto bina aadmu isaga ku baahanayo halkiis kugu soo dooranaya taasina waa wada kale oo la maro wadada saddexaad waa wadada xudxudashada dawladaha waaweyn dalka haysta iyo kuwa isu dhowtiin ciyaadooda eegsataba waa inaad noqotaa nin tolaho hal dawlad xoog weyn ama Mareykan dheh ama kuwa China dheh ama Ingiriis dheh ama Sacuudiga dhaho intaad xudxudood wax la yargarso oo gacanta ku qabto deetana sidii Suudaan intuu ku kaxeeyo ku dhaacay cudurka ku fadhiiso bal hadda wadadaynu marayno ugu haboona waa wadooyin badan jaamacadaho homework ku qaato aan ka soo wadsan halkan marayno qodobka ugu dambeeya waxa weeye gudoomiye waxaan oo wanaagada akhriday kulmiye 5 sano dalka haysateen maxaad ka qabateen su'aashaas ma aniga isweydiiyay la waa tameesho fadhidaan aniga waxay la tahay intaanu soo hadalay mid walba waxbaan ka qaban yaana halkay doontay gaarsiin inta aan idin akhriyay oo kooban waa reviewgii programkii aan dadka u keenay 5 sano ka hor waa boodkii aan dadka u keenay gari maayo oo anigu isfaanan maayo oran maayo cirkeen ku rijeynay laakiin inta soo qodob balan waanu ku qaaday waana dul joognado mid walba intii taagtay baan ku qabanay oo hakasha la'aan dhalinyarada wajirka saabina aad baan u nahay intaasaan ku soo koobay waa mahadsantiin su'aalahana iska heshin doona aad baad mahadsantiin gudoomiyuhu wuxuu doonayaa inuu istaaga kaga jawaabo su'aalaha istaagana ku qorto markaas uu taagnaanaya waqtigii uu dheereeyay waynu ku daraynaa aad baad u raali ahaanaysan waynu is ixtiraameynaa su'aalaha si fiican baynu u qaybsanaynaa comment yaro laba qof aynu ka bixin jirnay khudbada laakiin commentkii waqtigaan noo saamaxayn hablo badan baa taagan dad badan baa taagan su'aalaheena inuu toos u galeynaa shan su'aalood baynu u qaybsanaynaa aynu is ixtiraamno su'aalaha muhiimka istixgelinta iyo qadarinta mid baa aan iga aaraara on barnaamijkii horena idiin sheegay dadkii sameeyayna aan ka qabtay wixii personal ee shakhsiyana halkan iyo meel kala toona idinka iyo anaga iyo cid kale ma fiicna taaynu is ixtiraamno inkastoo jeceliyo wax walba la weydiiyo xor iyo gudoomiyo maaha ma waxba weydiinina waa xor laakiin aynu is ixtiraamno aynu luuqad iyo siiqdiga u dhigayna saxno aad baad mahadsantiin waynu qaybsanaynaa dadka taaganna aad baanu ixtiraamaya caawayntiina fadhida inta taagan baan ixtiraamaya ku xisaabtama
anigu waxaan doonayaa inaan weydiiyo gudoomiyaha dhowr su'aalood oo badanka dee gudoomiyaha ay badanku igu dhaadaan su'aal kaliya xaq u leedahay su'aashana ka hal su'aal ba weydiinayaa su'aal kaliya leedahay markaanu hal su'aal ba weydiinayaa xilligii 94kii dagaalkii sokeeyay ma gudoomiyuhu waxa wasiirkii arrimaha gudaha Soomaaliland waxa lagu wuxuu yiri kelmad aniga wax dili kale duca qaadan maayo doctor marka kelmadda gudoomiyaha waxaan ka codsanayaa bal dadkii ku yiri siduu aad baad mahadsan inta fasiraya oo ku mahad celinayna aad baad mahadsantahay inanka u dambeeyay taagan ma siinaya su'aashaydu waxay tahay dhalinyaradu waxay ka cawdaan cadaalad darro badan marka loo eego dhammaan xisbiyada oo dhan su'aashaada toos u gal marka su'aashaydu waxay tahay gudoomiyaha waxa weydiinaya bal cadaalad fiican sidee loogu samayn karaa dhalinyarada hadda jirta aad baad mahadsantahay inanka u dambeeyay si gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa hal su'aal ah su'aashaas oo ah mudane gudoomiye ayaamihii loolanku idinka dhaxeeyay adig iyo Siilayo murashaxnimada dhowr shaani baa magaalada Hargeysa lagu qarxiyay marka gudoomiye dhowrka shaani haddaad oran lahayd anigu kama mas'uulihina waxay la bilaabantay loolankaagii waxayna la dhamaatay markii aad tanaasushay waxaan ku weydiin lahaa haddii kursiga madaxtinimada laga helo adigoo murashax lagugu tartankeedii ku jirtabaad shaanidaas samaysay ma laga yaabaa inaad dagaalanto aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay ninka mas xisbiga kulmiye oo maanta gudoomiye ka yahay mudane Muuse Bixi barnaamij aad u culus oo aad u qiiro badnaayo dhalinyarta inteeda badan soo jiitay oo ilaa hadda aan isweydiinay halkuu ku dambeeyay ayay soo bandhigeen barnaamijku waxyaabo badnaa inaan sii taataabto ma jecli su'aasheedu waxay tahay gudoomiye waa creamkii ummadda inta halkan fadhida waa ardayda jaamacadaha aqoonta maskaxda ka hadlaan inta afka iyo fadhi ku dararka midna maaha wixii aad qabateen iyadoo facts iyo figresna waa la hayaa laakiin waxaan su'aasheedu waxay tahay barnaamijka aad adigu u soo bandhigayso ummadda muxuu yahay ee kii hore ee madaxweyne Siilayo ku soo baxay uu kaga duwan yahay aad baad mahadsantahay waxaan siinayaa inanta u dambaysa gudoomiye maxaad ka ballan qaadaysaa madax banaanida garsoorka in ka u sareeyo ilaa ka u hooseeya loo sinaado hadiiba aad musharax noqoto oo aad ku guuleysato jagada madaxweynenimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin sama ballan qaadi karaysaan in hanti dhowrka guud baaritaanka dalka uu sinaado ka u sareeyo ilaa ka u hooseeya oo aad dadka loo suuyo aad bay u mahadsantahay hibo barnaamijka shan su'aalood baynu isku weydiinaynaa shantaas su'aalood buu gudoomiyuhu ka jawaabay shan su'aalood waa nidaam baynu isku soconaynaa shantii su'aalood ba hal mar buu ka jawaabayaa qofku waa insaan si uu su'aashaada u xasuusto si fiican uga jawaabo waqti si uu kaga jawaabo 10 su'aaloodna qofku ma qaadi karayo ilaa caawana ma wadi karayo nidaam baynu samaysanay raacinaa mid kalena waynu samaynaynaa oo aan ka cudur daaranayo gudoomiyuhu markuu barnaamijka imanayay oo halkan imanayay wax wal oo aad weydiisaan diyaar buu ahaa haddaad isleediin su'aal adag baad weydiiseen haddaad isleediin mid jilicsan baad weydiiseen happy mabsuud buu ku ahaa wuu maqlayaa isagaana idinka jawaabaya anigoo wax diri kara duco qaadan maaye daabici qorigu hay faro horta dee beydka waad siisay nin baan ma iska qaata wadiga caawinaada yiri iska qaata baan beydkaas raawaale horta waa gabaad raawi anna waan ka xigtay khayriyadaana ahayd makarafoon cajiris la duubina way ahayd horta erayga gabiga waa soo xigto maalin aan meesha ka hadlayo waan idhi ma inaan iri baa doonaysaa mise waxaan kaaga jawaabay yaad ku tiri waa kalaba su'aalo yaad ku tiri weydi ilaahay baa wuxuu ku rooneeyay baarka watan wax walba la duubo cidii aan ku iri iyo cidii qafal barjaca u rogtay waa wasiirka warfaafinta masar cukuse haloo yeeray isaga caaw su'aasha jawaabtaas maalintii ay dhacday waxay ahayd maalin aynu saynay xamar iyo qolada koonfurta mar walba sayno nimanka la hadlayay nimankana la hadlaya kuwa iyo kuwa ku oranayna
وأن من كهديدا قرن مدى سومالي الآن مركز دون عشرة داسو وزير كان هو هاي ويتلا ريرو يرجس رئيس الركورة ورياشي بريقات دوبي ده ويفرد أنت ترى لك قرطة هو ذلوري موسى شامبر كانوا قال قرأيه بالكم معاه ده واحد حسن سعيد الحكاية جايه واي ذلوري كبر ذي كوده هيني تاريخ ده هلو سيكون صور شيء هذا تانا ده دم وين بانابت هذا يصير كلام تاينا ندك دافع عيانا هلا بعض عدالة درو نكيال كاكو يقول عدالة درو داليرة حزبية ما واحد جاي داليرة حزبية داليرة ماشى حزبية حكم الصيام ساس وعشر مسقار بانو إحنا داليرة قار ناكتو جوجا ما انقرنا هرت داليرة حزبية كوا بدنا هذا عدالة بنا ودين لهاي كوا بدنا وكو حزبية ومال أنا قارب بدل لهاي ومال وقت لومسه ومال أنا كي سكول كتير جامعة وقتي ساعات وقاعدة ومال إنهم مركب هذا كتير هورنا وحلاقهم برمايو يا وحلاقه هنايو أو سيستم كي ويقاني أن راعينا ومال مرب بدن أو دب بدن مركب هرتلا يردو مالمها كان بين كمو يعني حزبية ده يحتاج هذا كوا بدنا شان دي يقرأ حرقيسة يمرك كل مية وارتيسة مالما نمر مني شان وحن بعدها هي أنا وشاني يرشاني ماذا هاد قرر بايه وحوي شرتيله لكن سؤال وحوي ماذا توري ما كل مية توري الشيء مستوى نروح رعيته مية نروح رعيني يهورت عينو investigation سباينو عينو صوبانو أدي جاي يدير نروح رعيني سيئن كلا الله يعلم قرن مين يجري وإمك مركا وكرسي هذه هتكلم عظم الله توم عنقق أضغط ليو وحنقول دورته أهرسنا عن قفكم مرك أهرسنا كرسي لقى قاضو إرجع وان عبيد هذا يتنوع الدوخان يتنوع جوري جلان يتنوع إسلام تنا ور حنوسنا يا جوري إيه يتنوع بلايس كحد هذا قال بقول إيه استحس حكي بتاسم صبرتي markaan dawladii afweena ka cararay ayaanu dhulka ku dhaafan madax oo ciidda ku dhufanay oo waxa soo dhan ilowray intii ka dhaxaysayna maamreeba waana laga qaaday oo qaarna lagu fooriyay oo qaarna lagu heesay waxa waanu ka adkaano mana dhacana mana dawqano markaanu xilka joogno iyo markaana jooginna sidoo mana suuqa uga muranaado maanta madaxweynaha taa iga tag ashii daba suuqeen isku qabsanaano murmaaya dhuban adoona maayo meel la gali maayo marka taana gaatir baan ka noqono qolo cusub in oo leeyahay ee waa soo bislaad ka warwar ta kale imika daadana joogo barigaan cawaandiga hawa hadii wax lagu qabsaday wax iska celinayay imika soonigan dariiq iska qabsanaya wariga beedhay jeedinay madii aan ku dagaalamaan joogaa imika waayahay barnaamijkii kulmiye ee hore waa la arkay ninkii wadiyaadu hamiyaad mise gabadha qobayri waa لكن وحنا إصلاها وحراعين دونا وهدي أنا كسر لها هيك بدها دوس عطو لكن ما لو يرهكي وحنا إصلاها برنامج كي كل مية هو والارك مركز كأنتنا وقروح بضا مركز دمبر استنى ولا مهدي مصيبة ذي سابار شيء كنا ما نسا لكن ما له حادثة ها برنامج كي هو نكسنا أنت سبدل وانو فليني ولا مهدي أنت دمنا كل يوم بنصيبة ذينا ما رح بناني ذا قرصور كياهم تدورك ما رح بناني ذا دستورك وحو قرية صدح ذو كلام مدح بنايه وحكروا قرية هانت دوركم كم مدح بنايه وبارك هذا هبلوا هذا الكسر أما شيئان وسرباب ومدقانه إن أنتم واحد نوع قرية كل يوم ما مدح بنايه وفرق جلستين حق صور كيا هانت دورك هبلوا سرباب وفرق تشيلين مساسين نوع قرية مساس هذا ها تاو حكى جوابها إن مبالك افتمر هاي هذا وحوي وحن لا هاي هرت وين كورينا سيد المو كوري دولدو كوريسا وحول بهالكيد كجاري منه إنه مدح بنانادو ولا كدارت مدحونه كدارت كدمروا كدارنا يا كي كورينو كدارت شرعنا ويكتالا لكن واحد يسويدين لي هرجلين تيد واحد فيريا نيك مدحونه لو دورتي سيرايان كسو قاضي أو 1981 وزيرك ugu awaadsan dawladii Soomaaliya oo dhan ahaa oo 1973 waxa wasiirka ugu adkaa markii jamhuuriyadda Djibouti loo doonayay xorriyadeeda
iyo shirkii afrikoon isugu timid isagii cumar carte star ka ahaayeen oo 83gii u qaaday hubka inuu dalkiisa xoreeyo oo uu sameeyo dawlad wanaagsan oo sidaa la wada doonayo noqoto ma oran karo wuu hagraday iyo wuu u bareeray hadday wax dhiman yihiin ee duruufaha dalku maraya awgood baa laga yaabaa inay dhalishaas u jirto insha allahu idinka iyo annagu waxa inoo yoola oo inaga dhaba inaad sidaa aynu doonayno u wada xaq bannaanaadaan oo aynu good governance wada samayno waanaynu dhisaynaa maalina ku dhismayso 10 sano ku dhismayso muddo dheer bay qaadanaysaa adkaysiga iyo fishinkeeda waa inaynu lahaanaa ee waa inaynaan isku haaraamin wax tabarteedu diiday gudoomiye aad buu mahadsan yahay su-aalahaynu weydiinay ee uu idinka jawaabay idinkoo mahadsan ciddii niyadda ku haysay ha qanacdo su-aalo kale oo cusub oo wax idinku soo kordhiya xaaladda taagan wax ka tara ta soo socota wax ka tara tii dhaaftay wax ka sheega aynu isugu noqono mar kale idinkoo mahadsan aynu iscaawino dhinac walba xagga dambe oo dhan waan siiyey taagnida dambe aan siinaya taagnida dambe beri dhaweyd oo uu 2 kulan oo lagu soo marti qaaday uu ka qayb galay wuxuu sheegay maalmaha ka mid ah uu yidhi culimada ganacsigii iyo siyaasaddiiba way nagu qabsadeen culimadu siyaasadda yaanay nagu soo doonan haddana maalin kale oo ka dambeysay wuxuu yidhi maalin kale oo ka dambeysay wuxuu yidhi culimadu waa inay siyaasadda soo galaan oo xisbiya samaystaan labadaa eray ee isburinaya iyo muu gudoomiyuhu saxsayeen aad baad mahadsantay inantan horaan siinaya waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxaa idinka qorshaysan tayeynta amba wax soo saarka dalka in dhaqaaluhu horumar gaadho waynu qaybsanaynaa aad baad mahadsan tahay cabdiqani su-aasha unbaa toos u gelaysaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan weydiinayaa ummaddan somalilan waxay doorteen xisbiga kulmiye sanadkii 2010kii maantana waxaa mugdi badani ku jira talada dalku cidda ay ka goodo tusaale ahaan dalka tunisia oo kale su-aashiisa watay daaya su-aashiisa u daaya ha dhamaysta dalka tunisia sanadkii 1987kii waxaa la isku qabtay madaxweynuhu uu taliya iyo ma taliyo iyo talada dalku cidda ay ka goodo waxa ka run sheegay oo shaaciyay inaanu madaxweynaha talada ka goyn ee taladii cid kale ay u gacan gashay xisbigii talada hayay markaa maanta adigu waxa tahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye kursi madaxweynenimada waa doonaysaa maanta cidda ay talada Soomaaliland ka goodo ee xaqiiqada ee dhabta ee aad og tahay haddaanad ka run sheegin sidee markaad madaxweyne noqoto lagu aamini karaa aad baad mahadsantahay waynu sasiinaynaa waynu sasi aad baad mahadsantahay cabdiqani ayuub soo dhow walaal soo dhow ayuub soo dhow inaan kaasaan siinayaa dambe shaarka cadaa inaan kan ayuub inaan kan u dhiib su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye gudoomiye golaha dhexe ee xisbiga kulmiye tartan adag baa ka socda oo golihii dhexe lagu tartamayo adigu waxaad tidhahdaa mostly ood aaminsan tahay in golaha dhexe nimanka kula tartamaya in beeshiina dhexdiina lagu kala reebo ood adigu mabdaa aaminsan tahay halka iyaguna ay aaminsan yihiin in la tartamo oo calafkiina aad ku kala qaadaan su-aashaasaan ku weydiinaya maxaad ka qabtaan asalaamu calaykum aad baad mahadsantay aad baad mahadsantay su-aalaha inoo eegaya intay yihiin hal su-aal baa hadhay inantaasaan siinaya gudoomiyaha waxaan u sheegayaa dhammaan dhalinyarada halkan fadhida waa lugihii ku taagnaa qaranku waa lugahaan annagu ku taaganahay su-aasha toos waa lugahay dawladda ku taagnayd okay mar kastood ballan qaadasiin waad u ballan qaadaan laakiin maan arkin idinkoo wax u sameeyey ama wax u qabtay haddii aad ku guulaysato madaxtinimada waxaan ka oran lahaa dhalinyarada tus waxa aad ugu ballan qaado waqtiga aad ku jirto ololaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad baad mahadsantay aad baad mahadsantay shantaa su-aalood buu gudoomiyuhu ka jawaabayaa su-aasha ugu horreysa waxay ahayd culimada inankii halkaa su-aasha iga weydiiyey waxaa weydiinayaa ereyadii aan idhi anugu halkana waxaan ku hayaa telefoonka inaynu dhegaysano inay sidaa u yidhaahdeen iyo kale marka aad soo xiganaysa quotation eed fagaarahan oo kale aad ka hadlayso
وين كوتيشن كي قف كيلا هيسا وان كو صحيا لما قوبات بان كهذا اسكو جيدنا وان كهذا تهوري مالتي تكافل لفرعية هدالك ما صار به ereyadii aan waxay ahayd oon imika kadaan maqashiin doona hadii ay u baahataan aniga sheekhu si aan murmin ba culimooy saddexdii la isku maagi jiray baa faraha la gasheen adkaysta waa marka hore lacagtii baa yaratay ninka lacagta la waa la caayaa waa isma jale waa bakhayl looma hoydo dadka miyuu arkayaa wuu kibray iska adkaysta idinka lacagtii doontay laba siyaasadii baa gasheen oo ku dhex miranteen siyaasadana waxa baan u jeedin bariga hore waxa isku hayseen xalaal ba mise waa xaraan tasaddexaad taladii xeerarkii ama shirag wixii social leadershipkii even tradition qabaa'ilkii ayaa ku miranteen oo sheekh waliba haddaan runta isu sheegnay imka ilaa masaajidada qolqol loo tukiya culimada dawaaban u tuubaan waaninayo waxa la nimayo niman dadka ka yar sareeyo ilaahay ka wakiilo hodee laga dhageysta waxa annaga ku filanay dadkan kala iska galgalee hada adkaysta hada soo gashay ma jirto culimada maxaa siyaadada soo galisaan ma oran imikana malihi waayo legality fara badan oo axaadiis iyo ku sharci iyo waxba iga hor imanayo أنا وحزبي وضد كون الدنيا إلى مذوبان تإكوان تيجي معلومة يسوع segregation باي مرة يدرس هذا سوق لنا مالته ضمبه وحوها سكول كباس مركي الحين هاي هو حن كهذا هاي هذا الكلام منصور أنت عاد مقشي أيانا أنا علماء ما يدير هاي وحن كله علماء لما يسكوه الميسان أنا تناظر مركي تلذ شوف تروح بكو قريب من الدنيا تيجان راعينا تيهرب بدوس عطا واسكو معنا وذا ذو marka talada la galay lagu looltamayo ee xisbiyadii la joogo ee fagaarasha la isku hayo hadaa tiraada lacagta ka shaqeynaayo anigu halka tagi maayo hadhow tana tiraada waa shayaadeen waxa dalka haysta ee meeda haysan loo dhiibo isku helimaysa wadaado labada ee ama hawsha ka soo qayb gal ama cabashada dambada labadiina way koran waa ku hayo marka su'aasha meeshadii lama helin quotation qalad soo qaadatay inantii tiri wax soo saarka dalka ma korinaysaa waxba ka hagran maayo amba faydnii hay farin adigana uu ku sugay wax soo saarkaas marka intaada leeka dhowr iyo 60kii waxaan ku hamoon jiray anaga macallimiinta iyaduba in iska dhaaf 2000 ka by 80 ama dhowr 20ka in beeraheen iyo barwaaqadeenu in gaadhay subaan ku hameen sidina waa daba cararaynaa adduunkuna waa dib baday wali waanu gaadhlaanay insha Allah idinkuna wada ka qayb gal doontaa wax soo saarka in gaadho waqtigiisa waaye tara dalkii ka gooda ilaa yaare سؤال شهادة سر وجهه حاجة ضمان كي قتيه سؤال حاجة ضمان حبيبة برقيبة حسب بيجي سوا شيء إنه أساس سقي أون ترى هيدي قربو شيء هذا كويدينه تاريخ أصيل وقرينه حبيبة برقيبة إسلام تسع شيء كتير أساس سقي وأنا ترى بريها هيد وحارس كوديلين نكية أي حسب بيجي سكة طريقة كأها ودور يترى أنت بدر إذا لها يبى إسخلافين قرما يا هيد مركين لبص صار إياه ديرات عد كيسة إياه مو كيسة مدنا بالأرك واي عدول ورقة سوق قادسي ورمد حوينا ويجي إمسا شربين وارقنا هذا هي إلهي الدرجة شكرا إمسا ويجي أرقنا سوى صعودا ما سوى هذايا تم عدالة بقى برقيبة أو صدح سنة أركوا أي راتر هذا واسكم ولا يحرر أفراد قول عن حير نكاس وحيري رجال سوى إنسان والله كا هذا واحد عشاه ودي رب قارن سنة يقول أخوك سوى قلانو وين بلايد إرجع مورن لكن هذا كان ساودنا وتبقى ساوي واحد كعرر ساوي ضياشي هذا الرجال يقرب إلهي كيابه وأروح ماشي سكتيه ساسا كذا يا هرت مال عم كل شيء مالك أنت رسولي بدنا إمام حسن فقه جواد مقال فقارنا إرجع جواد مقال تيتون كنا وحرام بالين يل كذا أرنتها حسبك حير كيس على الراعية حير كنا وحدية قف كستو قلاد حسبك وأنا ترتك من الحوار سوتها تانا ديار باروها من الديدي كرو وأنا كون قصبراي حتى الحزب يقول لي سنة حتى غيره السوشيال رحضم كارف فقارا قف كستو فوت إن أنت هالكاس واحد تدي
inantii kale inantii u dambeysay waxay tidhi siyaasiyiinta iyo xisbiyadu maya astaghfirullah xisbiyada kale malaa way wanaagsan yihiin kulmiye kuwa kale way ka reebtay ma xisbiyada dhan baa mise oo kulmiye unbaa eedaale waayo kulmiya qaadanaya anaa caawa joogay kuwa kale ka daa markaa dadka ka doonaysaan codka iyo marka aad wax doonaysaan ballama wanaagsan baa noo qaadaan iyo barnaamijyo wanaagsan baa dhalinyarada u qaadaan manaan arag idinkoo wax fulinaya eedda cadaaladda ku dar waxaad tiraahdaa ballamay qaadeen in yar baa ka fuliseen zero hadda hana dhigin ilaa caqli maahe wax samaynaya naba canaano waa runtaada waxaynu ballan qaadnaa oonu wada doonaynaa inaynu ka baxno shaqalaanta inaynu cadaaladda helo inaynu tacliinta wanaajino inaynu caafimaad wada helo waanu wada ballan qaadnaa wada doonaynaa laakiin nolosha runtii maxay tahay mar walba waxa dawladaha haysta oo jiraya oo jiri doona waxaad filayso oo aad u rajaynayso oo qiyaasatay iyo waxa xaqiiqadu ka timid marka waxa weeye mid nagu xisaabtan awoodda qaran inuu leeyahay halkii gaar lahayd maydaan gaarsiinin oo waa farsamo xuntii oo nala xisaabtan oo waxa tiraa qarankeena dhaqaalihiisu intuu ahaa iyo kartideena inta lahayd waxa tiraa waa ka gaabiseen laakiin baahideena maanta ta soo socota ee qaranka soo socda iyo kuwa idinku hogaamin doontaan way dhinaan doontaa dalka ugu dhaqaalo badan waa Mareykanka 3 milyan in ka badan baa dib jiroon guri lahayn Jarmalka waa dalka labaad ee dhaqaalaha Yurub ugu weyn waa dadka wadna istaaga iyo istiridu ugu badan tahay frustration marka masaa'ibka adduunyadu way badan yihiin markaad xilka haysana way kugu badanaysaa marka waxa weeye waxaan la ballan qaadayaa maaha anigu waan sameynaya it's my vision war himilada saan leeyahay taasaynu wada qabanaynaa waynu ku guntanaynaa ninka xilka haya ama xisbiga xilka haya waxaynu kula xisaabtamaynaa awoodii aynu lahayn seedii umaad fulno waad meel kalaad marisay waad tabar gaabatay waad fikrad xumayd waad musuqday taa waad ugu qabsan kartaa adigoo haya daatadii aan qaladka ku lahaa laakiin ma jira bini aadmi dhammayn kara baahideena kulmi ahaan annagoon ahayn aan kaliya isu bogayn waxaanu xisaabtan ka ogolahay oo ku ka badan fagaraha aan soo qaadanayna waxaanu qabanay idina dhalisheeda soo qaadanaysaan barnaamijkii aanu fulinay 80% hadduu furi waaye annagaa gar daran oo Britain aan codka idin hore marayna xukuma laakiin markaad xukumayso ila xisaabtamayso waa inaynu ku xisaabtanaa daatal rig haddii aanay caafimaadku 3 jeer bilaabmin haddii aanay wadooyinku 4 jeer bilaabmin haddii aanay iskuuladu intaa bilaabmin haddii aan security iyo tayada ciidamada qaranku bilaabmin oo meel hoka aanay gaarin yes way jiraan dhalinyaro fara badan waana jiri doonaa ta ugu badan laga cawdo waa musuqa Afrika oo dhan afaysay cid walba leh kulmiye nadiif kama ah waa jira qayb kamid way jirtaa dad xum uu ku dhex dhuman karaa xisbiga laakiin hogaamintiisa iyo madaxweynihiisa iyo siyaasadayada waxaanu nahay xisbiga qura ee musuq maasuqa hay'ad u sameeyay waxaad ugu tilaasiin doonayo may qayb gelin way koraysaa berita qaban doontaa laakiin it's efficient laakiin waa aragti weey marka waxaan u baahanahay canaanta marka hore oo ballan qaada waxna ma qabataan annagana nama qabato xisbiyada kale nama qabato ninka siyaasiga ninka xisbi hogaaminaya ninka da'da dalkiisa inuu wanaajiyo doonaya marka hore notionka waa tuugo waa khayro dambi ugu mid ma qabatade 40 years ninka dalka rusoo halgamayeen kamid ah kuwa midkii mana aan shaqaysan garan waayin mana aan fariisan garan waayin fishan baan wada bar wax hagaajiya hadii wax naga xumaadana canaanta waa qaadanayna laakiin tan ala qabta oo nin iska fadhiyo oranin waxa ma qabtaana waa siyaasiyiin oo carab macaan bay ku siinayaan maniga waa carabka macaan siinayay kuwii runta ugu hadlaya baan ee doonayeen dalku wax gaaraan taana taasan kaga jawaab aad buu mahadsan gudoomiyuhu gudoomiyada fadhiisani nay aad buu mahadsan aad baad mahadsantiin waynu qaybsanaynaa aynu is dhageysano aynu is maqalno deganaan aynu isku maqalno gudoomiyuhu waa inoo diyaar wixii aynu ka gaarsiin karno ka gaarsiinayna dhammaanteed aynu is ixtiraamno si fiican isku ixtiraamno ayub mudana gudoomiye waxaan jeclahay isla waqtigii loolanku jiray xisbiga kulmiye waxaa jiray in aad war-saxaafadeed qabatay war-saxaafadeedkaasi waxaad ku soo dirtay mudana gudoomiye wasiir ku-xigeenkii hore amniga cabdilaahi abubakar in sifaha ay dowladdu u qabatay aad ka xumayd isla markaasina waxaa sheegtay in ay xukuumaddu ku eedeysay inuu hub markaasi maxay tole wasiirku gurigiisa uu yaalay taasina waxaa tiri mudana gudoomiye hubku guri walba u yaala hadeeg
hubku guri walba u yaallabaa tiri mudana guddoomiye innagoo sifaha iyo milgaha dowladnimo ay tahay inaynu mar walba tixgelino maxay tolay dimuqraadiyadda iyo markaasi haykalka dowladnimo ma kula tahay mudana guddoomiye sharaf okay waan soo koobayaa mudana guddoomiye public ama nation ama ummadani waxay gaadhay marxalad ah inay ka gudubto qori oo ay u gudubto qalin marka mudana guddoomiye su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan haddii aad aaminsan tahay inuu dal walba hubiyaal inuu guri walba u yaallo hubku markaasi aad doonaysana inaad maxay tole madaxweyne tahay waxaa kaaga qorshaysan xaafad walba adiga la qori baa yaalla ama hub baa yaalla maxaa kaaga qorshaysan mudana guddoomiye horta hees baa waxay odhan jirtay geesi iyo hanad baa laga boodsadaa rag ninkii waxgaradaa la garwaaqsadaa garashaan kugu ogahay su-aashaan weydiinaya waxay tahay guddoomiye waxaad noo sheegtay in ay wadamada madaxdu marka ay raadinayaan ictiraafka wadooyin badan loo maro wadada adiga shakhsiyan kuu qorshaysan ee doonaysa inaad u marto ictiraafka dalka maxay tahay qodobadaas inantaasiine su-aaluhu aynu ismaqalno su-aaluhu inama wada gaadhayaan isma wada kafaynaysaan haddaad runta doonaysaan waa sidaas intii nasiibu hesha waan siinayaa intii nasiibu weyda ha nastaan jaaniskooda ha sugaan dadka kale inay weydiiyaan ha sugaan habeenada kale inay imaadaan ha sugaan aad baad mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم مقعي waxa weeyaan hibaaq ibraahim gamuute mujaahidka su'aashan weydiinaya waxa weeyaan mujaahid waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta lagu tirin inay yihiin siyaasiyiinta ugu rugo cadaysan Soomaaliland haddaba dhalinyaro badan iyo dad badan oo aan hore ugu jirin siyaasadda ayaa doonaya inay ku soo biiraan waqti xaadirkan adigoo nooga faa'iideynaya khibradaadaas ama cid doonaysa inay ku soo biirto siyaasadda uga faa'iideynaya khibradaadaas maxaad oran lahayd aad u soo jeedin lahayd in la idin ka barto maxaa aad u soo jeedin lahayd oo oran lahayd hanaga baranina oo ficilada sameynina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mahadsantahay waan siinin aad baad mahadsantahay ina gashaarka cad gudoomiye waxaan weydiinayaa gudoomiyuhu wuxuu caan ku yahay mujaahid muuse biixi cabdi waxa jira idin kale mujaahidiinta waxaa ka mid a la idhaahdo mujaahid dhagaweyne maalin buu leeyahay maalintii buurtoo kale aadanshiina maalin buu lahaa lixla maalin buu lahaa kaashir maalin buu lahaa cabdiqaadir askar lahaa marka waxaan ku weydiinayaa gudoomiye mujaahidnimadaa sheegataa bal maalintaad odhanaysa waa maalintaydii oo sida raggaa kaaga gaar leh bal noo sheeg gudoomiye aad baad mahadsantiin waan siinaynaa waan dhagayska ingare waan siinaa ninka shaarka cas baan siinay ninka shaarka cas garanka su-aalo badan baa inoo hadhay wakti badan baa inoo hadhay istajiya waad helaysaan nasiibku intuu idin siiyo fadlan idinkoo mahadsan waxaan ahay siyaasi soo koraya su-aasha weydiinaya gudoomiye muuse biixi cabdi waxa weeyaan qofku marka horta aanu runtii ragga siyaasaddaadiyo halgankaaga iyo sooyaalkaaga taariikheed aad u taageerabaan su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan haddii maanta golaha dhexe xisbiga kulmiye aad ka noqoto musharax madaxweyne hadduu musharax xisbiga imika waa madaxweyne silaayo intaanu ognahay haddii uu madaxweyne silaayo ka tanaasulo musharaxnimada xisbiga kulmiye oo isla markaana aad adigu noqoto murashaxa xisbiga kulmiye ma noo sheegi kartaa hantidaada waxa aad leedahay si hadhow marka aad uga degta xilkaan kuula xisaabtan hantidaada inay wax ku kordheen iyo inaan waxba ku kordhin aad baad mahadsantay waynu qaybsanaynaa si fiican baynu qaybsanaynaa waa shantii su-aalood way gaadhay guddoomiyuhu ka jawaabayaa waynu siinaynaa guriga cabdulaahi abakor hubbaa yaalay oo aad sheegtay Soomaaliland way ka gudubtay qorigii oo waxay u gudubtay qalankii kuguma raacsani Soomaaliland waxa u baahan tahay qori Soomaaliland si ay qalinka wax ugu qori karto salka uga degto baa mushtar noqon karto oo xafladahan isku iman karto waxay u baahan tahay ciidan hubka iyo qoryaha adduunka ugu casrisan haysta inay yeelato oo doorato weeyay haddii aad hubka ka baxdo oo qoriga ka baxdo
soo hilib bisil oo cid loo cunto noqon maysid taas waa qodob guri walba qori baa yaalla maxaad ka yeelaysaana waxa taalla waa in iyada oo aanay cunfi u dhicin ee la isku qanciyey hubka laga wareejiyaa gacanta sibilka oo lagu wareejiyaa dowladda waanu socdaa broseskaasi muddo dheer wuu soconayaa waayo sidii ingiriisku berigii xaaraamo cuna 1911 uu dadka qoriyaha uga ururin jiray inagu isma qasbayno laakiin waynu isku qancinaynaa inuu hubku ku dambeeyo gacanta dowladda qura sharcigeedina waa la sameeyey wasaaradda dakhliga ana way wadaa iminka waxa la marayaa hubkaaga diiwaan geli oo laysan qaado talaabada ku xigtaana waxay noqonaysaa xiree waayo hubka gacanta dadka ku jira maraykan wuxuu ku hayaa waa arkaysaan inagana taad ka daran baa nagu soo yaa nagu dhic doonta marka bolisigeena waxa weeye inaan hubka ku wareejino dowladda uu gacanta sibil ka baxo talabaad اعترافك ودوينكي بدنا شيء تبع عمر ربي كلتها أنا جو إجماع قصنا وحي إلتها إنه عمر تدتكو إيجو intelligence كودا إيه مسكح كودا إيه مرق كودا أي سجيين إيه أدوك إيه أبعضي وهالكودا وتجي إيه جو السجال برود بيكون شين إنه جو السجال برود بيكون رناي أقول تدنا ويلين وضرب أي مران سنغافورة يا جبان إن المرهبان شعراي أو المسكح اللي مرقين وكنت شنو إن الميرك الكور وريجين إن أنت تري سياسة كوسو بيرنا ما حد يقول ترين لهاي لا بيرو ما يقول ترين لها هذا دون يصدق تاضو إن هذا إلى شطه والعرور تاضا يجوري جاجا يوالد كاجا iyo shaqadaada iyo naftaada ba aad ka ilaaliso dhibaato badan oo ayar dhibiraato guriga iska joog hadaa doonaysa inaad odagaaga istishaan oo carruurtaada hareeri weydo ama islaantaada istishaan hadaa doonayso in nin waliba ku maago oo waxaan ku qabanin kugu idhaahdo hadaa doonayso inuu qof waliba ku idhaahdo tayda yeel oo din badan dhageysanayso siyaasadda soo gal waxaan kugu soo koobayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa dantaamogi ayay dan umadeed ku jirtaa taada iloow ta qaranka u soco dulqaadkaas u yeelo haddii kala siyaasadda ay imanin diin qolofta diinka waa inaad lahaataa wax walaal soo gaadha mujaahid waad sheegataa aniga u sheegashada maxaanu ka yeelnaa أدر محلي ماشي مو شوق تشيل ميال جود هذا. إسكابدا شيء كشلو تاريخ المعلومات هذا أنا مارين ملي تاريخ هو حامل كلام وما شيء دوتا أنا بقول واحد قبتي وأنا بسمع قبل أنا واحد بدك قبتنا رجعت شيء سيء كوب بدنا كلو يجي عين وأنا يجي السنة هدي أدمد حوينا يسوش الرحلة أو هوران كلو دم هذا هنتي هذا منو شيء كرتا سؤال شاسي هل كان مطالو شرعي مدحوينها lagu doortaa laba xeer baa jira madaxweynaha hantidiisa waa in la diiwaan geliyaa caafimaadkiisana waa in la hubiyaa labadaba sharciga ay ku qasbaya deemaraanu wax badan ba maaye waxooga waa barska qarsan la sharciga ay yeelay su'aalo aad u badan baa inoo hadhay hadda hadalkayga fahma su'aalo aad u badan baa inoo hadhay marka aynu kala nasanaynaa waynu qaybsanaynaa hoostan baan ka siiyay markii hore koonayaashan u qaybinaya niga koonahan siiniya idinka yara shaarka cadaha su-aashaan weydiinaya guddoomiye soo jeestay weliba waxa weeye su-aal la xidhiidha dhallinyarada waxaynu ognahay 12 sannadood oo iskuula iyo 4 sannadood oo loo geeyo jaamacada ugu yaraan inaynu dhiganno manhaj waxbarasho oo aan tayadiisa wax badan laga soo qaadin karin markaynu run ka hadalno weeyaan waxa laale iyo wuxuu ka dawan yahay ma jiro haygu odhan Muuse Bixi oo hadeerba waxba kama qaban karo waxa weeye waxa taawad su-aashaada toos u su-aasheedu waxa weeye annagoo soo dhiganay 16 sannadood oo waxbarasho aan xabad irbadana soo saari karin maanta caqliga iyaguna uu nasiinay inaan walaalaha iyo hooyooyinka suuqa ku baadhano maxaa idin diiday intaad meelo kale abaaraysan inaad qalbigayga u soo jeedisaan isaan muwaadiniin iyo dadkooda u fikira aad naga dhigi lahaydeen idinkoo dhexraacay idinkoo su-aashii idinkoo noo soo raacaya wasaaradda waxbarashada taa maxaa diiday waynu si fiican baynu isku caawinaynaa axmed ina kasi waxaan doonayaa inaan luqadiisa kula hadlo maanta waayo geelu aad u yaqaana muusow
sideedaba geel jiruhu wuu yaqaanaa geeliisa hasha sumada su-aashaada toos hay hay su-aal toos okay hasha sumada leh ee caweerta leh ee dhuugu cunay ee xamastu u raacday ee aan la mayricin wuu yaqaanaa geel jiruhu dameereleyduna dameerahooda way yaqaaniin dameertoodu waxay ka hiiraagaysay waxay u hiiraagaysay su-aashaada toos maxaad u baran weydeen dadkiinu waxay doonayaan iyo waxay diidayaan aad baad mahadsantay waynu qaybsanaynaa waynu isku soo noqonnaa meeshaan ka siiyo waan ku soo noqonayaa waa inaan dhaafo waa inaan dadka kala soo siiyo fursadda dadkooda faa'idaystaan xaggaa dambe oo dhan waxba kama siin waa idin caawinayaa kashaadhka madowsi su-aasha weydiinaya waxay tahay kelmaddan inta badan ama siyaasiyiin ha haato ama culimo ha haato ama madax dhaqameed ha haatee lagu soo celcelinaya ah curdin baynu nahay iyo waynu koranaa goormaanu qaan gaadhanaa ama laga korayaa waayo waxaynu ogeyn dowladdii kacaankay iyadoo waxay gubtay waxay loogaa kii dagaalkay gashay dee halkay afrika ka taagnayn way ogeyn inaguna dhowr iyo 20 sannadood baynu maranaa goorma ayaynu qaan gaadhanaa waay inantaan siinaya waan idin siinayaa su-aalo badan baan idin siinayaa qaar badan gudoomiye su-aashan ku weydiinayaa waxay tahay xusbiga kulmiye markii uu talada dalka qabtay wixii ka dambeeyey wuxuu waayay siyaasiyiin mug iyo miisaan kule qaranka Soomaaliland markaa su-aashaydu waxay tahay mudane gudoomiye rajaynta leeg baad ka leediin idinkoo siyaasiyiinta intaa leeg waayay inaad mar labaad talada dalka Soomaaliland gacanta ku dhigtaan aad baad mahadsan tahay gudoomiyaha 5 su-aalood buu lahaa 3 goor oo miishanaynu weydiinay labaan ugu daraya 7 uga dhigaya idinkaan idin ixtiraamaya waa inuu ruulka idinka idin jabinaya shan bay ahayd waa inuu dhaafo waxaan siinaya inaan ka maasiinaya mudane gudoomiye waxaan ku weydiin lahaa ninba maalinba wax laga qoraa siyaasiyiintuna markay doonayaan wax way cawlo yihiin shacabkana way isku dhuldhigaan markay wax doonayaan waa siyaasigu marka kalena lama arko maanta muuse biixi cabdi ahaan maxaan kaa qornaayoo cusub oo tiraa oon hadhowna ku weydiinaa maanta intaa iga qora waa muuse biixiyo intaa idin leh hadhowna noo fulina kala xisaabtanaa aad baad mahadsan tahay su-aal kale aan ku celinaya aad baad mahadsantiin ma qaybsanaa intaasoo qof baan keligay ahay inaan idiin cadaalad sameeyo weeyaan ma qaybsanaa xiise badan baad u qabtaane anaa waktigaan ku daraya su-aalahana waan ku darayaa intii guddoomiyaashii hore waan ka kordhinayaa isagoo weliba taagan markaa idinkuna ixtiraam sameeyo aynu ismaqalnaynu kala dambayno xiisahaad u qabtaan ka midha dhaliya caawa waay aad baad mahadsantiin ninka shaarka cadna waa idinka daynaya aad baad mahadsantiin ninka maasiinaya gudoomiye muuse bixi waxaa weydiin lahaa gobolka sanaag waa gobolka ugu baaxadda weyn Soomaaliland waqti uu boorame ka hadlayay wuxuu ku soo halqabsaday dadweynaha ku nool gobolka sanaag khaasatan degmada Ceergaabo inay qoriga gacanta ku qaataan halka heer boorame qalinka iyo buugga gacanta ku qaataan mudane gudoomiye musharax madaxweyne doonaysa maanay codka gobolka sanaag nusqaan u geysanan hadalkaagaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala gudoomiyaha aad buu mahadsan yahay gudoomiyuhu aad buu mahadsan yahay 5 bay ahaayeen 2 ku daray waa 7 ha ka jawaabo aad baad mahadsantihiin su-aasha ahayd iyadoo waxbarashadu way liidataa waxayna tahay waa comment waa soo jeedina dhaliila su-aal ma aha ardaygaa soo jeedi wuu ku mahadsan yahay wixii dhaliila ku jira fagaaraad ka sheegtay waynu qaadi dhaliilaha ka jira waa waxa qabsana waa toosinaynaa wixii aad tabaysay wadaniyadu ka mid tahay ama wixii kale ku jira waayo anu maan akhriin manhajka laakiin ardaygii dhigtay hadduu ka cawday waxaa ballan qaadaya inaan wasiirka waxbarashada u geeyo cabashada oo dhan dhalinyaradu way ka cabatay tayada wadaniyada waay waxaa ninkii canaanayay kulmiye waxay diidayaan waa la idin arkay xisbiyada kale ee dhalinyarada ee curdinka ha la eego fikradaada waa soo dhaweynaya qofku xaq wuxuu leeyahay hadduu kulmiya la fool xumaaday ka kale la qurux badnaaday dee inuu codeeyo ila waxaynu xisbiyada u samaysanee waxaynu u samaysanay xisbiyada waa doorasho waa hudheelkaad cuntada ilaahay sixniga ay keenkaa iga daa hadduu kulmiya kula fool xumaaday la yaab ma lihi aniga waa xisbiyada qaar baa ila fool xun markaana la yaab ma lihi markaa xisbiga kula qurux badan dee la hawlgal oo wax ku tar
waxbay naas dhalinin kaana intaasaa ku dhaafo nin walba xisbigiisa la qurux badan iyo shaarkiisa waay ka afraad goormaan qaan gaadhaynaa waxayna leedahiin afar sanadood curdin baynu nahay tamarteennaan ahayn goormaynu qaan gaadhaynaa waxaanu qaan gaadhaynaa goorta inagu aynu xoogeenna iyo muruqeenna isu geyno eenu waxsar saarkeenu inagu filaado ayaynu gaadhaynaa laakiin hebel canaano ku gaari mayno iyo xisbi faraha ku taaga dad waliba waxay qaan gaadheen marka iyagu wax qabsadeen kulmiye wuxuu lumiyey kalsoonidii dadka ee markale talada hantiya dee waa aragti anu taa kadib wanbaa qaba inaan anigu isu bogay iyo inaan sax ahay garan maayee bal amarka ilaahay waxaan qabaa in dadkiiba kulmiye kusoo wada kordhow la caashiqsan yahay dabeetana waxaaban u baqayaa inay labada kale xisbi waxba waayaan anna fikradaasaan tala ka qaba ninban maalin baa wax laga qoraaye maxaan kaa qoraa caawa waxaad iga qoraysaa 20 jir waad ka yar tahay haddii ilaahay cimriga kuu daayo noloshaada adiga iyo aniga anagtayda inta ay hadhay inaynu wada ballan qaadno inaynu danteenna khaaska ka hormarino aynu ka hormarino ta guud oo danta guud iyo wanaagga dalka labadeena waa u shaqayno adiga aniguba hadda ila gal ballanta haddee maxaad kaligay gelaysaa ila gal kacoo ila qaadee sanaag waxaad tiri qorigay gacanta ku sitaa aan kuu soxdo horta inta badan ma dafra waxaan dhahdo iska roonaayo markay hore marmarka qaarkood sulla ila gashaa waxaan dhahdaa laakiin waa iska qirtaa horta sanaag waxaan dhibaa kuu sheegaya haddana waa qabaayo ku celinaya maaha inaan leeyahay beriga waa ku qaldamay waxay ahayd qarinjabintii jaamacadda eero camuudna wii ka hor baa la jebiyey 10 kun oo arday baa ka soo baxay deetana horta sanaag oo keliya ma odhan waxaan ku idhi haddaad hadalkii dhegaysatay weeye youtube-kan uuna ka dhegaysanaynaa haddii dee dhigtu lagaa sheegaan kuu seexo waxaan kuu sheegayaa walaalayaal ree awdalo berigii anigu aan yaraa 6 sano ka hor ama 50 sano ka horba wixii ammaani jiray la ammaani jiray ee lagu carari jiray iyo wixii la caayi jiray baa isbedelay berigii aan yaraa waxa aanu yasi jiro oo aan dhegaysan jirin ninka beerta qota oo waa beerana baan oran jiro maba guuraan ninka aan geel lahayna caydh baan u haysanay oo markaanu geela soo marin waan ku ducaysan jiro waxaan jiro aan inaga lisa geelaya inaga inkaarine imikana waxa faa noqotay ninkii beer lahaa inamadiisa tacliin bay wada barteen waa wada PhD waa wada ilbax magaalooyinkii tujaartu waa qoladii beeraha lahayd ee magaalada ag deganeed maxaysta la oran jiray qoladii geela raacaysay ee bariga ka soo bilow sanaag ilaa hargeysa barigeeda dadkii geela watay ee faanayay ee gabyayay ee isweerarayay ee dilka iyo dhaca ku faanayay way ka hareen dadka maanta oo iyaga ugu liita haddana waa leeyahay waa geography saxa dee adar alaaba ka mid ah kuwa geela ku habsaamay marka maxaad adigu dhalin ugu qaadanaysaa waa taariikhdu siday ahayd gobolka sanaag adiga iska daayay risti ceergaabo ayaanu meeyarkaagii iyo 10 jooga isku qabsanay arrintaa intii joogtay anigu bay marxad furtaydu bay noqotay intii geela daba cararaysay intii qoriga seetay kii beerta lahayd baa ka dheereeyay taasina maanta beer ma aha marka geela aan si kale u dhaqnay tacliinta inaan ku iloobi oo geel jirow wax baro haddana waan ku leeyahay waynu mar horeynu wada hadalnay waxna waynu wada qaybsanaynaa koob biyaabaynu meelkooda cabbaynaa guddoomiyuhuna uu inoo taagan yahay su-aalaha aad weydiisaanna si fiican buu faahfaahinayaa taasaa laga yaabaa inaad dareentaan inaynu waqti laakiin su-aashii buu guddoomiyuhu si fiican idinku faahfaahinaya saan arkayo oo uu ka faahfaahin badan yahay waqtigii aynu ugu talagalnay laakiin dhibaata kuma jirto su-aalihii baynu wadanaynaa waynu saxanaynaa waxbaynu wada leenay waarka waayo qanac ka helowna dee tamaam marka saasaynu ku wada qanacaynaa waynu wada qaybsanaa dhammaanteenba inankaasaan siinaya muraayadda xidhan بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو خالد محمد داود waxaan weydiinayaa gudoomiyaha wuxuu u taagan yahay iminka musharaxiinta golaha dhexe kulmiye wuxuuna doonayaa musharaxa madaxweynaha haddii uu waayo musharaxnimada xisbiga kulmiye
siyaasadda saxada siyaasadda masaasuu kaga baxayaa mise xisbigu gudoomiyuhu siyaanaya sida Faysal Cali Waraabe mise wuxuu ku biirayaa xisbiyada kale ee kale aad baad mahadsantay gudoomiyuhu ha qorto su-aasha raalli ahaada anaa qalinka kala baxsaday raalli ahaada ha qorto inuu idin fahmaa fiican waqti fiicanna waynu haysanaa aynu is ixtiraamna dhammaanteenba waynu qaybsannaa inanta taagan baan siinayaa gabdhaha waa xaq bay leeyihiin way naga yar yihiin waa inaan mar walba siiyo waxaan weydiinayaa gudoomiyaha sidaan filayo dhowr musharax ayaa kugula tartamaya xisbiga kulmiye markaa rajo intee leeg ayaad ka qabtaa inaad ku guulaysato ta kale musharaxiintan ku tartamaya xisbiga ma muujinaysaa dimuqraadiyadda ka jirta xisbiga kulmiye aad baad mahadsantahay waynu siinaynaa inaan ka maasiinay waxaad tahay gudoomiyihii xisbiga kulmiye mudane gudoomiye waxaa aad iyo aad dhib inoogu haya qaadka qabyaaladda qashinka iyo qiiqa sigaarka iyo urtiisa anigoo magacaygu yahay cabdilaahi cabdi cali oo dhakhaatiirta ka mid ah jaamacadda hargeysa mudane gudoomiye waxaan ku weydiinayaa maxaad ka qabanaysaa ama kaaga qorshaysan inaad qaadka sidii loo dabargoyn lahaa ama sidii ummaddeena looga joojin lahaa dhaqaalaha ciidda ka badan ee nagaga baxa dadkeena ku waalanaya waxaas oo dhan oo dhib inoo taalla ah sidii looga gudbi lahaa aad baad mahadsantahay sanina inay ka kala siinaya waxaan weydiinayaa gudoomiyaha marka la xulanayo golaha wasiirada badanka waxay xusbiga kulmiye waxaan aragnay wasiirada mudan wasiirada mudan oo kale inay dibadda ka yimaadaan oon dadka laga xulan ardayda jaamacadaha ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda tamaaliyadda iyo wasaaradaha kaloo mudanba marka maxaa kaaga qorshaysan gudoomiye haddaad ku guulaysato musharaxnimo xusbiga kulmiye inaad ardaydan aqoonyadana wasaaradaha mudan u dhigto aad baad mahadsantahay waynu qaybsanaynaa tiradan inoo hubinaya waxbaynu ku darsanaynaa toddobaynu ka dhiganaynaa maadaama aynu fara badannay inaan ka sii hayo gudoomiyaha muuse biixi cabdi inayaa gudoomiye musharaxiinta kale ee xisbiyada kale waxay ka xulanayaan gobolka awdal sida u badan adigu ma ka duwanaan kartaa gobollada bariga sool iyo sanaag bari ma ka xulan doontaa aad baad mahadsantay mudane gudoomiye waxaan ku weydiinayaa anugu haddii aad ku guulaysato talada dalka maxaad ka leedahay ictiraafka somalilan iyo arrimaha soomaaliya ma sii socon karaan mise saasaan waxa weeyaan ku adkaysa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ma sii socon kara ma joojinaysaa mise oo sii soconayaan aad buu mahadsanyay su-aashii la weydiiyey oo dhinac kale hadday noqoto oo macquuloo laga jawaabi karo waa laga jawaabaya haddii kalena waan ku darayaa su-aalahan idoo kordhinaya su-aal idinkagama dhigayo inantasi waxaan ku weydiinayaa gudoomiye haddii aad ku guulaysato talada dalka maxay tahay siyaasadaada kaaga taala dhanka caafimaadka dad badan baa xagga dambe ninkaa yarsiin waynu isqaybinayna mudane gudoomiye waxaan ku weydiinayaa berigii cabdiraxmaan tuur oo madaxweynaha ahaa madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan dhowr habeenba waa lasoo weeraray gurigiisa gaadhigiisa waa lagala baxay adiguna waxayd hogaamiyihii markaa hargeysa joogay maxaad ka ogeyd markaa ninkaa la weeraray aad baad mahadsantay waynu sisiinaynaa inankaasi may ka dambeysa ninka yara ay cabdiqani soo celi mikrofoonka cabdiqani soo celi mikrofoonka iska fadhiisto su-aasha waan ku siiyey si fiican u qaado dhiiranow su-aashaada toos weydii qaado mikrofoonka mar kale qaado ka dambasi may mikrofoonka ka qaad ayuub ka qaad mikrofoonka meesha anaa go-aan dhegaysta aynu ismaqalno oryaa no aan ismaqalno xaaji halkani waa program maaha meel gaara qofkaan siiyo haddaanu su-aasha weydiinayn kuguma wareejin karo waa sharci waa nidaam that's all waad mahadsantay ninkaa weynee damba sii inankaa muddo karkartay 8 su-aalood tii 9 baad ku daraysaa adigoo mahadsan ka gaarsii waqtiga بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa khadar cali yuusuf waxaana ka qalin jabiyey politics and international relationship
laba su'aalood baan weydiinayaa su-aasha koowaad aan ku weydiinayaa mudane guddoomiye salariga madaxweynuhu iyo ka wasiiraduba marka loo eego salariga ay qaataan askarta iyo macallimiinta ay qaataan waa arrin dulmi ku ah dalka iyo qarankaba wax ma ka bedeli doontaa salarigaaga iyo ka wasiiradaba waa siyaasadaada ayaad igaga jawaabaysaa ta qaranka igagama jawaabaysa su-aasha labaad biliis waxa weeyaan arrinta haamaha waa national security weeyaan shidaalku aragtidaada oo aan qaranka ahayn maxaad ka qabtaa in barayfad laga dhigo aad baad mahadsantahay guddoomiyaha su-aasha labaad fursadda siiyey guddoomiyuhu wuxuu igu yidhi anigu ma daalayo waan u taagnaanayaa iyagu yay daalin dee niman daalayaad u egtiin idinkoo fadhiye samirba ma liidin samra waad mahadsantihiin ha ka jawaabo 9 su-aalood buu maraya haddii doorashada golaha dhexe lagaaga adkaado kulmiye ma ka baxaysaa siyaasadda ma ka baxaysaa xisbiga 3 su-aalood dee horta kulmiye miyaad ka baxaysaa su-aashaa meesha ka saar meesha woo qaatee taas waa bisinka iyo yaasiinka waa habaare taa inaga daa ta kale maxaad yeeli doontaa wixii xisbigayga igu taliyaan yeeli doonaa oo xeerka xisbiga raacaya ta labaad intee in laga aad rajo ka qabtaa inaad ku guulaysato in badan ayaa ka qabaado kulmiye waan isku wanaagsanay qaadka qabyaaladda iyo qashinka waa dhibaato maxaa kaaga yaala sidee looga baxayo fikrado badan bay leedahay approach anigu sakaana sidaa uu ugu sahlaya waxa weeye horta rajo badan baa qaba inay labaduba yaraan doonaan qabyaaladda iyo qaadku su-aashaan isweydiiya waxa weeye keebaa hor dhammaanaya rajo waan qabaa ninkii nool ay naga dhammaan doonaan waayo rajadana iskama riyoonaye anigu waxaan garanayaa markii aan intiina leekaanu da-diinan ahayd ninka qayra ee sigaarka caba ayaa cawaandi iyo fariid ahaa maanta jaamacadda iyo iskuullada dhinka dhiga qayra waa saaqid waa ceeb waa taabuu waa progress markaa weyn ayaa dhacay 40 sano dhacay waxaan qabaa in jiilka soo socda uu qaadku wacyigelin ku yaraanayo qaadku inagoo qura ma aha waa masiibo geeska afrika ku habsatay ilaa yaman mantaqada dhexe oo dhan buu haystaa waana aadna u fiday oo traditional buu noqday qaar bal diintaabay ku daraan sidaynu uga baxayno ugu dhow waxa weeye waddada aynu hayno ee dadka mutacalimiinta ah iyo dadka shaqa iminka waxaad ku farxaysaa nin baa cimista dhan qaad ma cuno shaqada marka la qoraayo waxaa la odhanayaa inanku miyuu qayraa waa laga tegayaa hablahana waanu mahadnaqayaa waxay odhanayaa inanka hadduu soo hasaabo tago ula waan ku guursanayaa miyuu qayraa iga daa naf balehe aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa haddaynu taa sii korino oo aynu aad u balaadhan wacyigelin badan sano qaadka hor ku saari karnaa ta kale waa qabyaaladda sida qaadku u dhammaanayo uma dhammaanayso waa opposite 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor ninka dhalinyarada da-diina laga qaadka uu ku xarigoon jiray inuu qayro xabisiyaana ku dhufto oo timo fara badan la baxo xaragay laakiin barigaa inuu qolo sheegtaa ceeb bay ku ahayd halkana way isbedeshay yacni masaa'ibka dhacay waxa ka mid ah in la yidhaahdo waxay su-aalo tiraahdaa 2 nin oo socdaa yidhi war xabad baa dhacday masaajidkeena gee markaasuu sheekhow masaajidkii xabad ku dhacday oo haddaa xaggee loo irkadaa buhi haddaa xaggee loo yaacay masiiba waxay dhacday xisbiyada iyo siyaasiyiinta iyo kuwa xun siyaasiyiinta la yidhahdaa iyagu qabyaaladda hawad wateene markii la yidhi jaamacadii baa qabyaalad isku haysta ayay balaayaba timid waa masaajidkii rasaas ku dhacday xaggee loo cararabaa timid qabyaaladdu waxay u baahan tahay sidaa qaadka si leeg nimankiina waxbartadow dhallinyaraday baashii way inagu faaxday oo way sii koraysaa anigu intaan jiray qabyaaladdu maanta maalin ay ka dhiiran tahay ma arag maalin ay ka dhiiran tahay ma arag ilaa iyo waxaan ku dhahdaa waa dhoweyto waxaa laga xisho jiray labada nin isu yaadaa waa qolaba iminka haddaad 2 nin salaantaan ood mid istaqaanaan ka kale adoo weydiin automatically waa fashion ninkana waan reer hebel kugu daray inantu waa la mid tu kala ka daran qabyaaladdu ha iska ahaatee berigii hore waxay ahayd qabyaalad positive oo dadku jaar ku yihiin oo isku gabyaan
oo isu heesaan oo isku dhex galaan oo aanay culloobin sida sheekadii dhex martay inantii cambara iyo horriyiha haddaad daawato dadkaa reer miyiga ahaan jaamacad gelin magaalo gelin boqolaal sheeko caynkaasaa lab yaad arkaysa oo intay isu gabyaan oo heesaan haddana kalgacal iyo huyuumar iyo xidhiir ay ka qaadaan bal dhegayso gabayaashii hore cali dhuux iyo carabe iyo iyagoo isfadhiya intaa waxay isdhahdaan ayaa haddana xidid iyo xigaan iyo weliba qadarin isugu jireen masiiba waxay ka dhacday imika magaalo walba qolo waliba meel gaaray degtay iyaga isu sheekeeya rag iyo dumar markaasay odhanayaan haddaynu inagu nahay qolada reer qurac warfaa dalkan wuxuu ku dhisan yahay dulqaadkeenna iyo aqoonteenna iyo caqligeenna kuwa kale u tagaysaado haddaan ilaahay meeshaa inagana dhigin ayuu isna intaa la ku sheekeynaya waayo jaamicigii iyo geeljirihii iyo ninkii dhoof ka soo degay cid kale ma arkaan xaafadooda isugu camiray inta badanna iyagu baa kala guursada inankoodina waa la dabeecad dabeetana faan baab iskala dhammaan laayay tusaale reer Hargeysa inuu wadana imika qabyaaladdu siday noogu sii adkaatay markaynu gaadhnay inaynu asad samayno dhismo ah oo waaweyn waxa faashin noqotay beertii yare la gaadhaba jilibka reer warfaa jaamac oo qura in laga iibiyo dabeetana iyaguna ay meesha dhistaan dabeetana waxaad arkaysaa qolaba dooni maysid buurtaa beertii ayay waa beertii ilma xaaji cabdi rajaac oo degane hadduu cudur faafaa ku dhaca hargab reerku hargaba wada qaadaya ila qof meel kaba jire ka yaraa ka weeraa haddii carruurtooda misras cunuu xanuuno dhammaantood cunaa wada xanuunaya ila iyagu baa isku wareegaystay deetana qabyaaladu waxay u baahan tahay akhwaan runtaan isu sheegnay in generationka cusub iyo inuu waanu dib u eegno oo nidhaahno dee qabyaalada ilaahay baa nagu abuuray ma dhammaato Ireland iyo England baa baalkii waxa kala baxaya Scottishka iyo Ingiriiska oo 300 sano ahaa mid qura ayaa maanta si qabyaaladu kala gurmaaya waa wax biraad muka abuuran aanad ku hadalkeedu ku badiye markii la waayay xisbiyada ideology ee ahaa west and east communism iyo wixii baabeen ee conservative iyo liberal la waayay ee siyaasadda isku maqnaa adduunkii waxa soo baxay waxa la identity dagaalada socdaa waa wada aniga qolo bal u fiirso ruushka inta dawladda dagaalamaysa waa identity reer Chechnya reer Kalashnikov kala tiri Afrika dawladdu waxay soo tahay identity annaga marka waa dad bini aadam uu jecel yahay inuu intiisa gaar ka muujiyo laakiin teeni daway talax tagtay waxaan u baahanahay inaynu simeeraara ka furo inaynu ku dhiirano inaynu xal dheer u doono qabyaaladda kuma baxayso ha baxda qabyaaladdu ilaa maalintaan garaadistay xisbigii la oran jiray SNL iyo UF abdi idaani ay ka gabiyeen ninka yiraahdo timacade qabyaaladdu ha dhacdo u belahay waaba sii koraysaa u baash marka xal aan u wada doono qashinka karteenu ku xidhay oo wax dhib yar sida loo basriyaa caalamka dhan uu hayaa oo la soo basriyaa imikana progress baan ka soo inaa qashinka intii kambaniyada la sameeyay dadkii kambaniyada sameeyay yaani dhamaynin laakiin progress bay sameeyaan waxbay akhriyayaan xafiisay sameeyeen xiriir bay sameeyeen waxaan u maranayaa haddaynu dadaal sii korino inuu qashinka dhamayn karayno saddexdaas oo arday saasan kaga tagay ta ku xigta wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ma sii soconaya horta sayda waxa rumaysanahay ninkii walwaa la oran jiray ayaa yiri waday oo wado rag walaal wax ku dhaamo waay aniga laftaydu halka taariikhdeeda waxa la sheegayo dagaalkii galay ciidankii watay operation ahaa ciidan ku jiray inta waan soo arkay conflict iyo dagaal iyo wuxuu yahay caawa halkii baan taaganahay waxaan leeyahay wixii dhibaato wada hadal lagu dhameeyay oo hubiyaan la isu qaaday saa darteed hadalku dhaalagu furay laakiin wada hadalladu waxay soconayaan marka ay ku jirteen ka dhaar aragno danta Soomaaliland wada hadal aanay ka dhex muuqan danta Soomaaliland garimayno markii Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynihii koobaad uu ahaa madaxweynaha madaxtooyada in badan baa lagu weeraray maxaad ka ogeyd maxay ahayd arrintaada maxaa looga weeraray Cabdiraxmaan qof aan looga nabcayn Cabdiraxmaan wuxuu ahaa klaaskii ugu horeeyay ee Soomaaliland school gala waxaanu ahaa ninka mar walba wanka u gala kubadana iskoorarka waa intii uu taariikhda soo marayna wuxuu ahaa nin leh talaabooyin dhiiran oo dalkiisa wuxuu ku taray intaanu SNB soo gelin oo ay ka mid tahay markuu safiirka ka ahaa Ethiopia
sababta dagaalka hortiisii inuu sirtii dagaalay Ethiopia isagoo safiira intuu focus waaga soo kaxaystay uu xadka kala soo gudbay Cabdiraxmaan Tuur wuxuu ahaa rag yaqaana iyo qoladii daba socotay in ixtiraam badan loo haysto Cabdiraxmaan Tuur wuxuu ahaa ninkii markii la isla eegay saddex nin oo isku fac ahaa oo saddexduba ay noo ahaayeen role model kuwa aanu ku dayano isa soo taagaan joogay isaga laga doortay Silaayo oo markaa 5 sano soo hogaaminayay ayaa la fadhiiso wuu aqbalay Maxamed Xaashiye isaga oo aanu mid walba kalaga dooda ahaa ayaa la hala doorto saddex cod buu kaga helay waana lagu saacbiyay waana lagu dabagalay ma ahayn system ay dadku inay Cabdiraxmaan nibcaayeen laakiin wuxuu ahaa mar aynu ku dhacnay xaalad aan kala dambeyn lahayn oo aan la ismaqlay oo jahawareer la galay oo inaga lumay habkii dawladnimo sidaa darteed dadka aan xogaalka ahayn ama meelafo ku qayraa tafsiir qalad ay ka bixiyaan iyada iyo waxyaalo badan oo kalaba oo dadka ku abuura naxli iyo dhalinyarada taariikh qaabin marka Cabdiraxmaan ragii u dagaalamayay maalinta laga gurigiisa la galay xafiis gaarigii galay iyo inamadii galayna waan ku keenay ragii bakooriyay baan aniga quula aadan maalinta anaga ugu soo reeday ragii bakooriyay inamadii baan ahay waan ku keenay iyagina way nool yihiin waliba maanta garaadaysi taana waa mujirreeyay hebel iyo hebel laakiin waa qalad dhalinyarnimo galeen waan nool yihiin laakiin taariikhda ayaa la qaldan waaye caafimaadka maxaad ka qabanaysaa caafimaadku waa hawl badan yahay wax badan u baahay laakiin waan riyoodaa mararka qaarkood marka caafimaadku waxaan ku riyoodaa tiyo qof walo Soomaaliland oo xanuunsadaba ambulance helicopter loo diro oo dhakhtar lagu daweyn karo la gaarsiiyo ilaahay gaarsiiyo taa salariga madaxweynaha iyo wasiirada marka loo eego shaqaalaha macallimiinta dhakhtarada uu ka badan yahay waana farbadaya lama qaadi karo waa raay aan soo dhaweynayo maalinba waxba la saxaageed baa la qaadaa shalay markuu kulmay yimid salariga madaxweynaha iyo lama aqoonka ku xigeenkaba waa la fikiray oo waxa la yiri salariga la sameeyo hadduu batay marka loo eego gaabka dhexdooda waynu ku noqon waynu yaran doonaa insha Allah kuwa kalena waynu soo qaadi si aynaanu kala fogaanin taasina waa mabda ay ku suntahay cadaaladda iyo isoo dhawaashaha dadku haamaha waa hanti qaran maxaad ka qabtaa haamaha waa hanti qaran waa run waxaan ka qabaa inuu qaranku leeyahay oo uu qaranku warigood lahaado oo hadba siday qaranka ugu faa'iido badan yihiin loo isticmaalo taasaan taana ka qabaa halkaas waa su'aashu dumaysan marnaa taas wassalaamu calaykum gudoomiyaha aad buu mahadsan yahay 9 su'aalood buu hal mar israaciyay markaas waliba ku dheeraaday waynu qaybsanaynaa wali waqti fiicanna waynu haysanaa waxa la mooday inay wax ka dhaceen meesha booliiskii oo dhan bay soo gadaamay meesha aageen oo dhan marka booliiska waxaanu sheegnay inay waxba dhicin baabuurtii iyo buuqii iyo wixii oo dhan bay booliisku arkeen marka booliis badanna meesha way joogaan oo ay wargelinayaan marka hayar badan iska bixi markuu programku inoo dhamaado bilaa buuq bilaa dhibaato iyaguna shaqadooda iska gudanayaan aad baad mahadsantiin su'aal adigu aad lahayd buu ilaaway gudoomiyuhu iigu celi musharaxa madaxweyne ku xigeenka halkaad ka dooratay aad baad mahadsantay waa su'aashii ugu muhiimsanaydee talow 24 sannadood maxay sool iyo sanaag looga soo qaadan waayay madaxweyne ku xigeenka galbeedka looga qaataa sababta ugu weyn waxa weeye sool iyo sanaag deegaankoodu waxay tabanayaanba kama qayb galaan boroseska codaynta ee doorashooyinka dhibaatooyinkuna way badan yihiin shacbiguna eed badan ma laha weli waxay naga maqan muwaafaqadii xaggana dadaal kuma yara ilaa maalintii 83 July laga soo qaadayay nimanka golaha guurtida iyo baarlamaanka ee ku jira ee gobolada aan la sacaanood ragii kala soo qayb galay ahaa ilaa maalinka maanta weli way nulaan qabuulkii aynu isku afgaran lahayn ay ku soo gal lahayn doorashooyinka xisbiyadana waa tiradii cod baa lagu kala baxaya anoo jeclaan lahaa inaan gudoomiyaha madax xisbi waliba uu jecel yahay inuu gudoomiye ku xigeen bariya keeno xataa sawirkaa qurux badan hadduu mid reeb gobolada bariga yahay ka kale inuu galbeedka noqdo laakiin mashkiladdu waxay tahay dee xisbiyadii kale way kula tartamayaan cod baa lagu kala baxaya
qoladaasina weli may qaadanin inay dee codkay bixiso dee adeer baqaan nahay inuu codku naga baxo oona lagaga badiyo marka naf baa noo geynaysa inaan codka bixinaya xaggiisa u cararno wax kaloo xumaani ma jirto qadarintoodana way leeyihiin aad iyaguna waa inay ku dadaalaan dee inay codka soo galaan dee ma odhan karo nimaan codaynayn intaan ka carara mid codeeya dee cidlaan ku dhacaya waan isla hadhana labadeeduba marka ha ka qayb galan diiwaangelin soo socota gobollada barigu madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen intaba way helayaan dee waayo soomaad maqal odaygaayeen si maalintii dhowteen laascaanoo tegey ninkaan mahmaadan maama maqashay nin baana beri meel kawad shaqayn jiray waxaa uu noolaya siciid khaarajiyaa la dhahda waa militariinka boosaasuu joogaa markaasaa wuxuu yidhi oday siimaana oo reer laascaanooda ayaa soo degay laascaanood waa kuntabeeyadii markaasuu yidhi china soo marayoo khalqiga meeshaa joogay waa dee malayn kari maysaan oday ag joogaa yidhi oo adeer chinuhu shir shoore miyuu ka badan yahay markaa dee iyagaaba dadka u badane shir shoorahaas diiwaangelinta ha galaan aad baad mahadsantihiin ninkan yar baan siinaya waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi muuse ma waxaad leedahay igu doortaa bimujarad ilkalaam hadal keliya oo ah inaad hadhow toole wax qaban doontid mise waxaa jira wax ayidaya ama qariino wehelinaysa hadalkaagaas oo ku xambaaraysa bulshada reer somaliland inay ku doortaan taasaan ku weydiin lahaa mudane aad baad mahadsan tahay waxaan guddoomiyaha sharafta la weydiin lahaa jaamacadda hargeysa waxaa ka soo baxay arday dhan 930 arday waxaa xukuntaa masaarad waxaa sii xukuntaa waxaa soo xukunta madaxweyne taas oo ka dhigan tahay ardayda jaamacadda hargeysi waa lafdhabarta ama jaamacadda ugu weyn jaamacadaha dalkeena haddaan usoo dhaadhaco waxaa la doortay madax jaamacadda ah waxay yidhaahdeen waxaynu beeranaa dhir arday walba ma la soo hadal qaadin qof waxa la siinayaa shaqo manay odhan qof baa la siinayaa shaqo ama dhowrkiiba arday ugu sarreeyaa laga qaadanaya marka adiguna ma waxaad odhan lahayd adhi qof walowba adhi soo qaado si beertan ardaydii hore ka baxday ay kuugu daaqaan mise waxaad abuuri lahayd shaqo abuur adiga laftarkaaga aad baad mahadsan tahay aad bayna intu mahadsan tahay xagga dambaan siinayaa xagga dambaan siinaya inanka koorka xidhan in badan baan shahar idin idhe inanka koorka xidhan baan siinayaa waan siinaya waan siinaya dhowr waxa aan qiraynaa shalay kasta inay maanta ay dhaanto oo ilaahay uu fursad inoo siiyey in aad maalintaa aad shaqaysan karto ifya aakhiraba dalku marxaladu soo maray 4 dowladood baa iskaga dambeeyay sharciyo ayaa la dejiyay dastuur baa jira xeerar baa jira xisbiyada kala xukuma xeerar xagga shaqaalaha ayaa jira xeerar hebel baa jira hase yeeshee sharci kasta oo dalka ka jira goldaloolo ayuu leeyahay ilaa iyo sharciga islaamka mooyaane haddaba ka guddoomiye ahaan halo ka guddoomiye ahaan maxaa kaaga meel yaalla ku dhammaystirno qabyada ah dastuur kale ee sharciyada xisbiyada aad baad mahadsantahay sharciyada siyaasadda ama shaqaalaha runtii leh ee 24 saacadood musharaxiinta ama isqabsanayaan ama shaqaalaha laftirkoodu ay u baahan yihiin wax kala cadeeya oo kala haga oo yidhaa waxaasaa shaqadaadii ay tahay waxaana shaqadaadii maaha waad mahadsantihiin inanka hablaha dul taagan haddaan usoo daadego su-aashayda waxaan weydiinayaa hal su-aala xukuumadda kulmiye waa xukuumad ay isdaba socdaan tada saynu ka war hayno waxay ku wareejisay ganacsatadii warshada laydhka oo ah meel ay dadku wada leeyihiin adigu muuse ahaan miyaad wax ka bedelaysaa systemka xukuumadda ay ganacsatada misood ku taageersanta adigu aad baad mahadsan tahay gudoomiye muuse biixin waxaan weydiinayaa su-aal ah waxaa kula tartamayaa ilaa sida warka hadda lagu hayo 3 nin ilaa hadda sida warka lagu hayo 3 nin baa kula tartamaya haddii ay 3daa nin aad ka guulaysato maxaa siyaasad kaaga yaala ma xisbigaad ka saaraysaa ma xisbigay ka mid noqonayaan mise way kula sii shaqaynayaan mudane gudoomiye aad buu mahadsan yahay gudoomiyuhu aad buu mahadsan yahay gudoomiyuhu aad buu mahadsan yahay gudoomiyuhu
حق دمان كسيني يا وليبا وان سيني dad waaweyn oo badan oo taagan baa jira ixtiraam u baahan inaan kaasaan siinaya axmed hore u socoado adoo hore u soco anaa siinaya inaan kaas dad waaweyn oo ina dul taagan baa jira liajli ixtiraam gudoomiyaha xisbiga waxaan weydiinayaa su-aal quraata oo ku saabsan xukuumadda madaxweyne siilaanyo dhaqan ay kaga duwan tahay saddexdii madaxweyne waddanka horreeye soo maray taas oo ah inuu madaxweynuhu 4 wasiir oo ka mid ah beesha uu ka soo jeedo ay yihiin lama taabtaan oo mar walba rashafalka laga reebo iyo dhaqanka kale ee ah inanka uu saddex oo yahay markii koowaad uu magacaabo tinjiraha imaaraadka adigu aragtay aan soo aragtay wixii shakhsiga waa caadi laakiin toos su'aashaada shakhsiyan ka daa toos way su'aasha kale weydiinaya gudoomiyaha xisbiga waxa weeye haddii aad ku guulaysato tartanka doorashada madaxweynenimada qaranka Soomaaliland اعترافك سومالان qaabka ay xukuumadda aad ka tirsantahay imika u wato system kale ma ugu guuraysaa oo aan system kamika ku dhaqmaysahay aad baad mahadsantay waynu qaybsanaa saf baynu u qaybsanaa markaa gudoomiye waxaan ku weydiin lahaa inflationka ama sicir bararka markuu dalka ku dhaco baan ku baraarugnaa laakiin inta ka hor sicid ka hadasha ama wax laga soo abaabulo ma leh Ethiopia hadda Google haddaad weydiisid Ethiopia waxaad ku arkaysaa inta rajku marayo sicir bararka waddanku Kenya la mid Djibouti la mid laakiin Soomaaliland haddaad gashay Google-ka kumaba sheegayo marka bal maxaa kaaga yaala mustahan qorshahaas aad baad mahadsantahay gudoomiyinta inooga jawaabo aynu ku celinaynaa su-aasha horeysa waxay ahayd maxaa lagugu dooranayaa ma intan caawad noo sheegtay mise wax kalaa ku haro marka lagu dooranaya aad sheegayso waxaa lanagu dooranayaa horta qof lama doortee xisbigaa la doortaa waxaanu dadka hor keenaynaa barnaamijkayagii waxaanu dadka hor keenaynaa waxqabadkii xukuumadda kulmiye oo aan isleeyahay waa gaadhiga u weynano raaci doona haddii alla yidhaahdo waxa kale oo aanu dadka hor keeni doonaa mustaqbalka aragti aanu ka aragno baahiyaha ummadda oo ku cad barnaamijkayaga su-aasha jaamacadda hargeysa ee shaqaabuurka waa su-aal dhowr jeer siyaalo iskuda looga jawaabay ardayda dhibaatada ka haysata arrintaa ee qolada kaga cabanayso wixii maamula ka cabashiina waa halkeeda laakiin waxaynu u wada guntanaynaa si shaqo abuur dhalinyaro loogu samayn lahaa ka saddexaad ninkii ka hadlay xeerarka ee yidhi xeerarkii kolba waa iska hor imanayaano kole xeer baa la qaadanayaa oo shareecadda islaamka unbaa saxa waa run shareecadda islaamka unbaa saxa distoorkeenina qodobka ugu dambeeya wuxuu odhanayaa wixii shareecadda ka hor imanaya wuu reeban yahay xeerarka iska hor imanaya xeerarku way korayaan kolba dhibaataa soo baxaysa kolba xeer baa imanaya waxaynu u samaysanay baarlamaanka iyo dawladdu waxa weeye inaan kolba wixii danteenna ah iyo xeerarka in loo baahda la sameeyo intay noloshu jirto ee mujtamacu wada nool yahay wuu imanayaa mar walba xeer iyo khilaaf iyo xeer la sameeyaa markaa waxay ka mid tahay nolosha iyo wareegeeda warshadda leydhka oo la wareejiyay maxaad ka qabtaa warshadda leydhka waa hanti qaran hantida qaranku waxay ka kooban tahay waxay dawladdu hayso iyo waxay ganacsatadu hayso iyo khayraadka dalka iyo aqoonta idinka idinku jirta iyo dadka markaa warshadda leydhka waxaan ka qabanayaa iminka dad baa loo dhiibay hadday sidii hore ka wanaagsanaato oo ay faa'iido qaranku yeesho waa sii la doonayay hadday sidii hore noqon weydo waxaynu u guuraynaa kolba si danta ummaddu ku jirto markaa haddii tii hore ay dhibaato culays dawladda ka ay ku noqotay oo dawladda maamulka maanta jooga uu u arkay in lagu dayo oo ay ka fikireen solutionna ay noqotay in loo dhiibo shicibka oo faa'iidada dadku ku jirto wixii faa'iida ummadda la raacaya mar walba waxay naga reeban in cid gaara loo dareeyo oo waxa dawladdu leedahay ama maamul ah fikrad qof loogu daraynayo loogu wareejiyo taa waa inaga xaaraan waana inaga reebantay haddii aad ku guulaysato murashaxnimada ragga kula doonayo maxaad ka yeelaysaa ninkii weydiiyadow horta kubadda ma ciyaartaa
haddaan ciyaarina waa daawataa kubadda ragga ciyaaraa way jabaan dhuuxaa jaba madaxaa dilaaca gawda iska saaraan indhahay faraa iska geliyaan siidhigaa dhaca waa la afuufaa inta iscaanaqaan bay shaarka la baxaan deetana halkood ma ciyaarta kasii wadaa kulmiye kii guulaysta booyinta kale sidaasay yeeli doontaa haddii aan la idhaahdo iyagoo ismada shaqadooda qabanaya afar wasiir oo madaxweynaha isku beelayihin waa lama taabtaan inanku soo dogow ahayna dastuurka wuxuu ka dhigay safiir ninkii su-aasha ay weydiiyey waxaa weydiinayaa madaxweynaha iyo dadku waxay idhaahdaan marka xilka loo dhiibo waynu ku aaminay nin walba hadday afar walaalaya oo hooya wada dhashay shaqada ka soo baxayaan ciddii ay kuula muuqato shaqada u dhiib madaxweynaha iyo adigu isku fikir ma tiidin hadduu u arkay afartan inay shaqadii ka soo baxeen adna aad u aragtay inuu eexday kiineebaa saxa ila isaga la dhaariya adiga kuma dhaarine tiisaa raacaya waayo isagu wuxuu arkay inay afartan shaqadii qabanayaan kama eegaya angalkaa waa isku qoro waayo kitaab inuu gacanta u saaray iyo nin walba markaa sababaan u dhahdan ka gacanta saare aamini maayo ee ninka suuqa jooga warkiisaa qaadanaya maaha dad iimaan leenahay waa ninkan dalka ku aaminay hadduu arkay inay shaqadii ka soo baxeen asaynu in ciddaa doonta shaqa u diro maynaan odhan kuwa reerkiina ah shaqada ha u dhiibin inanku soddonka u yahay dee ma waa waadin soddonka iyo seedan isu wada dhahay xeerku miyuu yidhi dastuurka miyay ku qoran tahay madaxweynuhu inanku soddonka iyo xil uma dhiibi karo xeerkaa miyuu ku gudbay madaxweynuhu mise muwaadin xaq labaa shaqa loo dhiibay waxaanu weydiinaa inanku shaqadii marka soo baxay waxaad tiraahdaa inanku shaqadii kama soo bixin oo dhalishaas leeyahay laga qaado laakiin maxaa shaqa loogu dhibay dee waa muwaadin xaq u leh muwaadinkana waxaynu eegaynaa xilkii loo dhibay ma ka soo baxay marka waxaan u arkaa inuu yahay qiil jabankaasi oo aan cid lagu dacayadayn karin ka ku xiga ictiraafka haddii aad madax ka noqoto dalka ma waxaad keeni doontaa hab cusub mise kii xukuumaddiina ayuunbaa dabada sii haynaysaa dee horta qof quri wax ma curiyo kulmiyaana la yidhaahdaa barnaamij baanu leenahay dastuur baanu leenahay xisbiga waxaanu ugu talagalnay maaha in doorasho lagu hela la dhaqaaqo kulmiye fishinkayga waxa weeye inuu boqolaal sano jiro oo idinku ka soo baxdaan da'diinni oo kuwa kale ka soo baxaan sidaa darteed hawsha uu qabanayo uu bilaabay qaranka waa inuu saxaa wixii qalada marka habka dowladda wadaan u raacaya iyo xisbigaygu hadday wax ka qaldan yihiin waanu saxaynaa waanu update garaynaynaa waanu xoojinaynaa laakiin fishanka iminka aanu ku fikray siyaasadayda ah ayaanu sii xoojinaynaa haddii tuka wanaagsan ay soo baxdana waa uga baydhaynaa isug inflationka dhaqaalaya da'yar oo weliba aad si yar waa mahadsan tahay horta haddii dhaqaalaha inflationku xumaado oo waxba hore loo garan waayo haddii caafimaadku xumaado oo waxba hore loo garan waayo hadday waxbarashadeedii laga cawdo horta dee niman yahow si xaqa wax ma is weydiinaa oo labada dhinacba dee meel dhexe ma istaagnaa horta ma aqoonyahanka caafimaadka iyo ninka dhaqaalaha yaqaana iyo ninka tacliinta u soo qaatay PhD-gu soo isagu maaha inuu keeno xalka dhibaatada uu yaqaano hadduu siyaasigu qaadan waayo ku shaqayn waa siyaasiga qaldan laakiin hadduu aqoonyahanka waxba soo saari waa inay aqoonyanka xaggiisa laga fadhiistay siyaasigu wax walba ma yaqaano markaa waxaa leeyahay waxaynu hubsanaynaa dhaliisha inflationka iyo kuwa la midka ah ma siyaasiyiinta iminka dalka joogaa waxba qaadan waayo dhegala oo la uleeya oo eed raacaya mise aqoonyahankayga waxba curi waayey oo buwaata iyo internet kuna akhriya waxbay soo gudbin waayey labadaa dhexdooda inuu ka helnaa jawaabta iyo xalka gudoomiyuhu aad buu mahadsan yahay ballanqaadkaygu waxa weeyaan mas-uuliyiin badan baa halkan inoogu iman doonta laakiin waxaynu ku iman doonaa invitation maanta wixii ka dambeeya saddexda gudoomiye si cadaaladaynu u samaynay xafiiska on cable t v xarunta dhaxal loo doonan si fiican baa loo gudbin invitation baa lagu iman doonaa barnaamijkan HCTV forum oo bil kasta laba barnaamij inoo soo bixi doonaan mas-uuliyiin kale oo kala duwan halka waynu keeni doonaa gudoomiyaasha aynu ka qabanay barnaamijyada saddexda gudoomiyena waxaad isku barbardhigi doontaan su-aalahoogii jawaabahoogii fikirkoogii aragtidoodii mar baana TV-ga laydinka sii wada dayn doonaa habhab isku xiga habeen isku xiga oo repetition laydinku samayn doonaa kuwii hore gudoomiyahana laydiin sii dayn doonaa barnaamijkana waxaad daawan doontaan maalinta jimcaha 10:45 daqiiqo habeenkii sabtidii soo galayso haddii Allah awood la yiraahdo intaas ayaad ku mahadsantiin gudoomiyuhu taagan yahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiinba aad baad u mahadsantiin
aad baad mahadsantihiin